محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهدا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. waxaan ku soo jirnay iska fariis baabka waxaan ku soo jirnay iimaanka iyo acmaasha dhama maaragtay inay soo hosgelayaan. waxaan sheegnay iimaanku inuu yahay qowlun billisaan waictiqaadun biljanaan wacamalun bilarkaan yaziidu bidaacati araxmaan wayanqusu bidaacati ashaytaan. marka acmaasha iyo daacaadka dhan inay iimaanka soo hosgelayaan ayaan sheegnay. sidaasoo kale macaasida oo dhan inkastoo dhammaanteed aysan kufri wada ahayn, laakiin macnaheeda guud ayaa maaragtay kufri lagu tilmaami karaa. kufrigaasna wuxuu u kala baxaa kufrun akbar iyo kufrun duuna kufrin. marka laba arrimood ayuu marka halkan u baabaystay. baabun idaa lam yakun hadduusan ahaanin alislaamu islaamku cala alxaqiiqati mid dhaba hadduusan ahaanin, marka jawaabteedu waxaa weeye laa yanfac walaa yantafic bih. qofka maaragtay kuma intifaacayo wey maaragtay. marka qofkii hadduu islaamka luqad ahaan waxaa la yidhaahdaa hoggaansamid. hadduu qofku maaragtay daacadii u hoggaansamo oo acmaashii khayriga hay sameeyo, laakiin qalbigiisa iimaan dhamhu uusan ku jirine uu yahay mid hoggaansankaas dadka istusaaye, islaamnimadaasu ma anfacayso. saasuu ka wadaa, yani ma anfacayso, waxba u tari mayso. yani idaa lam yakun alislaamu cala alxaqiiqa, idaada marka jawaabteeda way maqan tahay. yani waxaa weeye lam yantafic bih, kuma intifaacayo maarata sidaas oo kale. sidaa daraaddeed ayaa macnaha waxaa lagu magacaabaa, yani culimmadu waxay sheegaan qof muslim cinda annaas, laakiin cinda allahi aan muslim ahayn, liannahu daahirkiisa ayuu dadki wuxuu tusiyey acmaashii, laakiin qalbiga nifaaq iyo shirki iyo kufri ayaa u qarsoon. marka kaasoo kale ma maaragtay anfici maayo maaragtay. idaa lam yakun hadduusan ahayn alislaam islaamku cala alxaqiiqa xaqiiqi hadduusan u ahayn. marka imaam albukhaari baabkan wuxuu ku daray bilowgiisa wuxuu ku daray aayaddii qur-aanka ahayd, qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna. yani acraabtii waxay yidhaahdeen waan iimaana nagala helay. markaasa waxaa la yidhi iimaan rasmiya linkama helin, laakiin waxaad tidhaahdeen waan hoggaansanay, hoggaansankaas. marka xadiidkan iyo aayaddaas soo qaatay. xadiidkan aayaddaas marka isagu wuxuu u deliishanayaa in ay tusinayaan islaamnimo daahira ah oon iimaan la socon, oon waxba anfacaynin sidaas oo kale. laakiin arrinta uu tarjamada u samaystay waa arrin dhabahoo xaqiiqo ah oo jirta, oo qofku hadduu islaamka daahir ahaan muujisto laakiin uusan xaqiiqo iyo dhab ka ahayn ma anfacayo, waa sax. laakiin aayaddu culummadu waxay yidhaahdeen, jumaahiirta mufasiriintu waxay yidhaahdeen qofkii aan acmaasha khayriga ah ku hormarin
oo aan iimaankiisu sugnaanin ayaa baabka ammaan ahaan mu'min waaye lama dhihi karo. waxaa la dhihi kara waa muslim. inay markaa dadkaasu dacafaa iimaan ahaayeen ayay culummadu dhahaan sidaas oo kale. sidaa daraaddeed ay dhahaan aayadda ka dambaysaa fasiraysa oo laleeyahay inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi wa rasuulihi ثuma lam yartaabuu wajahaduu biamwaalihim wa anfusihim fi sabiili illah. kuwa mu'miniinta dhabta ah waa kuwaasa. laakiin kuwaani waxa weeye islaamkii hadda soo galeen waa hoggaansameen laakiin darajadii iimaanka raasiqa ma isa gaarin. sidaa daraaddeeda macnaha ay leeyihiin yani darajaadku waa kala sarreeyaano darajatul islaam iyo darajatul iimaana jira. darajatul islaam waa qofkii daahirkaas ka hoggaansama oo maaragtay islaamnimadiina rumeeya laakiin iimaankiisu uusan kor noqono uun meel sare usan gaarin. darajatul iimaana ku xigta, darajatul ixsaana ku xigta. waa saddexdaas. sidaa daraaddeed ayay maaragtay culamadii salafku waxay samayn jireen daa'iro kale wareeg weynay samayn jireen. kaas waa islaamkii. kan yaroo ka hooseeyana waa islaamkii. kan yaroo kasii hooseeyana waa ixsaankii. marka dadka darajaadkaas ayay leeyihiin. xadiidkanna marka waxaa muuqataba uu hadda soo deliishaday inuu qof mu'min oo rasmiya uu yahay sida xadiidku maaragta uu caddaynayo. can sacd ibnu abi waqaas waxaa laga wariyey. waxaa la yidhaahdaa magaciisa sacd ibnu malik ibnu uheyd ayaa la yidhahdaa. marka qal risaas yar ku qorta. waa muhiim inaad saxaabiga magacyadiisi ay taqaaniin. sacd ibnu malik ibnu uheyd maaragtay waa nin asdiyaho rasuulka abtigiis weeye maaragtay. rasuulka hooyadii ayay qaraabo ahayeen. marka rasuulku wuxuu dhihi jiray waa abtigay. waana nin caanahoo maaragtay 10 mubashira biljanna ayuu ka mid yahay oo 10ka jannada loogu bishaarayay halka mar ayuu ka mid yahay. hada 10kuba waa wada quraysh waad ogtihiin. رضي الله عنه الله كراد ونبي أن رسول الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أعطى وحوسي رهطا كوح ضد مؤلفة القلوب أو إسلام مرة كسب بيري ورسولك وجعله إن إسلام ماذا مع سدان حول سي بدن وسعد سعد جالس أفديه سعد أفديه مركب ماشي أنا كلو حاليا تجريد كاللغة العربية معناها حويه qofkii oo laba qof iska dhigaya wa ana jaalisun uusan dhihin iyadoo isagii baa hadlaya markaasuu leeyahay wa sacdun jaalisun. marka luqadda carabi tajriida lagu yidhaaho isagii baa maaragtay marna laba qofood iska dhigaya. anigoo fadhiya ma dhihin wuxuu yidhi wa sacdun jaalis isagoo sacad fadhiyuu yidhi. fataraka rasuulullahi ilaahay rasuulkiisuu ka tegay sal alla alay slam rajulan nin buu ka tegayo waxba ma uusan siinin. wa huwa ninkaasu acjabuhum ilaya midka aniga aan aad ugu bogsanahayo aan ugu jecelahayo oo ayuu yahay ninkaasi. yani nin mu'minahoo dhabahoo cajiib lahoo oo aan isleeyahay maaragtay ninkaanaba mudan in wax la siiyo ayuu rasuulku ka tegey. marka ninkaas waxaa la dhihi jiray jucayl ibnu suraaqa addumari. jucayl ibnu suraaqa addumari ayaa la dhihi jiray. faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi ilaahi rasuulkiisiyow maa laka maxaa lahaantaada ah can fulaanin hebel yani ma sababu cuduulika can jucayl. yani ninkan maxaad wax u siilaadood uga leexanaysaa oo dadka kaliyay u siinaysaa. fa wallaahi baan ku dhaartaye innii anigu la araahu waxaan ku ogahay ama aan u malaynayaa mu'minan inuu mu'min yahay. waxaan ninkan ku ogahay inuu mu'min yahaan ku ogahay. faqaala rasuulku wuxuu yidhi aw musliman mase ma muslim baad ku ogtahay. ma mu'min baad ku ogtahay mise muslim. fasakadtu qaliilan wax yar ayaan aamusay. uma intaa dabadeed galabanii waxaa iga xoog batay maa aclamu minhu waxaan ku ogahay. facudtu waan u laabtay limaqaalatii oraahdaydii hore. yani hadalkii hore o ahay maa laka can fulaanin war ninkan maxaa wax loo sii la-yahay. fawallaahi inii la araahu mu'minan ninkan waxaan u arkaa mu'min. facudtu limaqaalatii oraahdaydii horaan u laabtay. faqultu waxaan idhi maa laka can fulaanin war ninkan maxaa looga leexday. ninkan maxaa wax loo sii la-yahay. fawallaahi baan ku dhaartaye inii la araahu waxaan u arkaa ninkan mu'minan mu'min baan u arkaa. faqaala rasuulku wuxuu yidhi aw musliman mase muslim baad u aragtaa. fasakadtu
waan aamusay qaliilan in yar uma galabanii dabadeed waxaa iga xoog badiyey maa aclamu minhu waxa aan ka ogahay facudtu waan u laabtay limaqaalatii orahdaydii oo ahayd maa laka can fulaan fawallahi inii la araahu mu'minan sidaasaan ku laabtay facaada rasuulullahi ilahay rasuulkiisuna wuxuu u laabtay yani wixii hore uu yidhi u laabtay oo ahay aw musliman ma muslimiinaad ku og tahay mase mu'min uma intaa dabeed qaala wuxuu yidhi yaa sacdu sacdow inii anuu la ucdi rajula ninka ama ruuxa waxbaan siiyaa walxaal gayruhu isaga kayrkiis axabu ilaya aniga la iga jacayl badan yahay minhu xaggiisa ruux baan wax siiyaa isaga ruux anoo ruux kale ka jecel oo ruuxaas kale jecel ayaan isaga aan siiyaa maxaan isaga wax u siinayaa khashyata an yakubahu allah anigoo ka baqaya in alla uu ku tuuro fi naari naarta kabiga waxaa la yidhaahdaa luqadda carabiga asalkeeda yani dabagedin qofkii in madaxiisa saa loogu tuuro afaman yamshi mukiban calaa wajhi qofka madaxa marka in saa inta loo qabto lugihiisa kor loo qaado madaxa naar loogu rido anoo ka baqaya daraaddeed ayaan sidaa maaragtay u yeelayaa u yidhi marka laba arrimooduu marka rasuulka sala allahu alay wasalam sacad uu meeshan ku baray mid waxaa weeye qofka wax siinta wax la siinayo macnaheedu maahan in dadka kale laga jecel yahay waxaa weeye in isaga loo baqayo in uu naar maaragtay ku dhaco looga baqayo ta'aaluf iyo maaragtay islaamka u soo dhoweyntiisa iyo jeclaysiintiisa walmu'alafati quluubuhum daraaddeed maaragtay wax loo siinayo qofkii mu'minka dhabta ahay isagoo faqriya oo u baahan ayaa waxaa loo tala saaranaya iimaankiisa leanna xoolahan adduunyada waxaa ka daran aakhiro dabkeeda marka ninkaa in dab laga badbaadiyo ayaa waxay ka muhiimsan tahay kan iimaankiisa laysku hubo in wax la siiyo marka taasu oo rasuulku barayo qofka jacayl la jecel yahay kaliya wax looma siiyo oo dadka inuu u fiican yahay waxaa wax loo siiyaa in la badbaadiyo islaamka hadda waad ogtihiin rasuulka sal alay wasalam dad baa maaragtay islaamka waxay usoo geli jireen xoolo ka hel ka bacdihiin hadda iimaankooda ku sugmi jira markay diintii iyo khayrkii arkaan meesha xoolaha la bixinaya xoolaha wax ka hel ayaa saa usoo geli jiray markay soo galaanna hadda saxaabada kuwa u fiicanay noqonayeen oo qalbigooda hawshii degaysa taas marka waa uu barayey ta kale u barayay wuxuu ahaa maadaama iimaanka lagu idlaaqo haddii maaragtay waxa qalbiga ah oo qofka qalbigiisana cid daalaca karta aan la arag adigu sidaas ha ugu sii ammaanin waxaad tidhahdaa muslim dheh acmaasha daahirka qof sameeyo wanaagsan inuu yahay sidaas oo kale dheh marka sidaa daraaddeed iimaanka waxaa loo isticmaalaa mu'min sifo ammaan yani mu'min haddii la qof iimaankiisu dhammaystiran yahay sidaas oo kale sidaa daraaddeed salafku waxay dhihi jireen maxaa tahay ana mu'minun insha allahu saasay dhihi jireen yani insha allahna waa tabarugayaano inuu is ammaano yidhaahdo iimaankiibaan waxaan ka gaara meesha u sarreeyey ayuu diidayaa marka sidaas oo kale marka xadiidkan looma deliisho karo ninkan xoolaha loo diiday inuu maaragtay islaamkiisu daahir ahay oo gudaha uusan mu'min rasmi ahayn sida baabka maaragtay ka muuqata laakiin waxaa loo jeedaa in aan maaragtay ammaantii ahayd iimaanka la yidhaahdo muslim sidaas oo kale lagu idlaaqo oo waa ka dhahaya rasuulku wagayruhu rasuulka xataa isla xadiid kale ku weydiiyey war ninkan rasuulku sacd wuxuu ku yidhi jucayl sidaad u aragtaa markaasuu yidhi waxaan u arkaa ninka dadka u khayrka badan inuu yahay marka sidaasuu yidhi baabu kufraani alcashiir wa kufrun duna kufrin baabu kufraani alcashiir yani zawjka maaragtay lagu kufriyo oo lagu jizaaro iyo wa kufrun gaalnimo duuna kufrin gaalnimada sokadeeda ah marka qaacida yaraan meeshan ka siinaya intaan baabkan bilaabin oo abwaabta soo socotana anfacaysa ruuxadeeda qaacidadaas waxaa weeye sida acmaasha daacada ah loogu magacaabo iimaan ayaa macaasida ayadana waxaa loogu magacaabaa kufri macaasida oo dhan dhammaanteed kufri waa maaragtay lagu magacaabaa laakiin kufrigii ayaa laba nooc ah kufri akbar oo mukhrij can ilmilla ah iyo kufri asqar oo ah kufrun duuna kufrin
يعني wax walba oo macaasiya waxaana kufriga lagu magacaabo laakiin kufrin duuna kufrin sidaas oo kale marka axaadiisanu sidaas oo kale maaragtay uu soo daliishanaya وعن عبد الله سيدا درادي أو كفر السري مارتي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون عبد الله بن عباس وكلاو كفر السري يعني تفسير كيسنا وإن لو دراه وقتي وكهلي يدتك وكهلي دتك مارت أمويين تأهايين وملاحظة أهايين أيها إسلام كجونهان كحكومية أيها قف كمدة أسوأ مبادئ يكون إسلام كحكومية أيها مسألة من المسائل هوديسو أي راعي كرتها marka kaasoo kale lama dhahayo islaamkii uu maartay ka baxay sidaas oo kale marka waa kufrun duuna kufrin oo عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله كرمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت الناس دتك أيا لا إتسيي أريت وحا لا إتسيي النار نارتي با لا إتسيي marka ru'ya lagu tusiyay ama sida riwaayinka qaar ku sugnaatay waxa la tusiyay habeenkii maaratay la dheelmiyay فإذا أكثر أهلها دت كذا كان أقبلنا وحوها النساء ضمرك يكفرن ويجزاران قيل وحال يري يكفرن بالله أيكفرن بالله الله ما يكون قالوا بين قال وحيري يكفرن وحيكون جزاران العشيرة كأبال دعان مارتي زوج كودا أي كأبال دعان ويمارتي ويكفرن وانا أي كأبال دعان الإحسان السمافلك قف إحسان فلنا يعني أبال كيسي وما قداني وكأبال دعان ويمارتي لو أحسنت هدي أدو وناك سميسيد إلى إحداهن ميت كمدة الدهر وليا هداد خير وسميسيني ميت كمدة ثم أنت راد إيه أردت منك حق هذا شيئا وح مال إحسانك يهيرك يوحي أدودي أدمال وصح يرؤى دعيد قالت وحي لها ما رأيت ما أنا أرق منك حق هذا خيرا وناك قد وليا أديو خير لبا وما أنا أرق لي هاي عرفت marka kufriga marka luqada carabiga asalkiisa waxa la yiraahdaa at-taghdiya was-satr dabolit yani kufriga asalkiisa wuxuu ku yihiin qofkan ilaahay ku gaalay waxa way nicmadii iyo barwaaqadii ilaahay siiyay ayuu qofkan asturay ilaahay abuuray oo arzuqay oo rususha u soo diray ayuu maaragtay galadii iyo abaalku u galay qariyay markaas wixii uu mudnaayo cibaado ah cid kale u leexiyay marka kafar laana wuxuu qariyay Allah nimcadiisa sidaas oo kale sida daraadeed ayaa waxa lagu idlaaqa wax kasta oo macaasi ah meesha codku isku dhacaya wax kasta oo macaasi ah ayaa waxa lagu idlaaqa kufri marka way kala weeyeen midna waa midkii diinta dadka saarayay oo noocyo badan leh kufru al-ibaa iyo kufru al-i'raad iyo kufru al-istikbaar iyo kufru al-takdhib iyo kufru shirki ila shantaas ayaa quraanku uu sheegay iyo kuwa maarata kalaba kuwaas waa diintay qofka ka saarayaan wixii marka ka hooseeya oo macaasi ah macnaha kufriya lagu idlaaqa laakiin midkii diinta looga baxay ma يكفرنا ويجزارانو ويكعب على الدعان وي قيل وحالو يرى يكفرنا بالله الله مي يكو جزاران والله مي يكو قالوا بين قال وحيري يكفرنا العشيرة يعني ننكو ده أي ماركتي كو جزاران مدى كلام ملاحظة كلو يا علماء كان لقى قادنا يعرفن ما دام الزوج حقيس أوي هاي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها يعني هذه الروح إنه أسجده أن مارتي فر لها إلهي يوم بالله سجوده ومن فريه زوجنا وحنا أمر الله إنه نكذي أسجده مركها هذه نكذي أي مارتي كجزارته أو أي مارت كعبال دعوه خالق أبورنا يعني إنه كعبال دعيسه أي هالكاس كجري كرته marka in halkaas laga celiyo ayaa macnaha ka soo baxaysiin wayakfurna waxay maartay ka abaal dhacaan ihsaanka sama fal qofku ihsaan fasho maartay abaalkiisi ma mariyaan way law ahsanta hadii maartay
aad u ixsaan fashid ilaa ixdaahunna mid kamida addahra weliga uma intaa dabeed ra'ad ay aragto minka xaggaada shay-an wax qaalad waxay leedahay maa ra'aytu ma aan arag minka xaggaada khayran wanaag qatu welig marka sidaa daraaddeed rasuulku wuxuu faray gabdhaha maaragtay inay sadaqada badiyaan oo khayrka iyo sidaas oo kale maaragtay ay badiyaan naaqisaatu aqlin waddiin markuu yidhi sidaas oo kale marka meesha waxaa laga qaadanayaa qaacidadaas ah in kufrigu wax kastoo maaragtay macsiya ay iimaanka maadaama baabka iimaanka maxaa loogu sheegay wax kastoo macsiya iimaanka inay nusqaaminayaan ay wax u dhimayaan wey maaragtay macaasida dhammaanteedna kufri diinta ka saaraysa ruuxa inaysan ahayn saasaa laga qaadanaya baabu lmacaasi min amri ljaahiliya macaasidu waxay ka mid tahay arrimaha jaahiliyada ayay ka mid tahay can abi dar waxaa laga wariyey jundub ibnu junaada a la yidhaahdaa abi dar jundub ibnu junaada ayaa la yihahda radi allahu canhu alla ka radna qaala wuxuu yidhi saababtu waxaan la maaragtay caaytamay oo la caraytamay ama la caaytamayba rajula nin facayartuhu markaasaan waxaan ku ceebeeyey biummihi hooyadiis oo waxaan ku idhi yabna sawdaa midkii hooyadii madoobeeday sidaasaan ku idhi faqaala liya nabiyu rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam yaa abaadarow acayartahu miyaad ku ceebaysay biummihi hooyadii miyaad ku cayday innaka adigu imru'un ruuxu baa tahay oo fiika dhexdaada ay ku jirto jaahiliyatun wixii islaamku tirtiray xaaladihiisii mid ka mid ah ayaa kugu jirta ikhwaanukum walaalihiin khawalukum kuwa idiin adeego idiin shaqeeya waa walaalihiin dadka atbaacda ah ee idin raacsane maaragtay adeegayaashiihii waa walaalihiin wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu khaailaa la yihahdaa marka khawal ayaa lagu jamciyaa yacni ikhwaanukum walaalihiin khawalukum kuwa idiin adeegaya waa walaalihiin jacalahum allahu allah yeelay taxta aydiikum gacmihiina hoostooda oo ilaahay adinka adeegayaal waa inka dhigi karay marka adinkaa lainka dhigay kuwo loo adeego marka nimco weyn oo ilaahay ku siiyey wey maaragtay marka khawalka luqadda sidoo kale waxaa lagu yidhaahdaa yacni nimco walaalihiinu waa kuwo linkugu barwaaqeey qof dadka idiin shaqaynaya o idiin adeegaya waa wax ilaahay kugu gargaaro wey jacalahum allahu allah wuxuu yeelay taxta aydiihim gacmihiina hoostooda faman ruuxii kaana uu ahaado akhuuhu walaalkii taxta yadihi gacantiisa hoostiisa ruuxu ahaado falyuطcimhu ha quudiyo mima ya'kul waxa uu cunayo wax ka siiyo oo wax cuntada uu cunayo cunto lamida ha siiyo walyulbishu ha u labiso mima yalbas waxa dharka uu labisanayana ha uga labiso ha ka marashiyeeyo walaa tukallifuuhum hana ku kalifinoo ha ku mashaqaynina maa yaglibuhum wax ka adag shaqo ka adag oo aysan qaba karin ha ku dhibinin oo ha ku mashaqaysinina fa in kallaftumuuhum haddii aad ku dhibtiin oo aad ku mashaqaydiin shaqo ka adag fa aciinuuhum shaqadii la qabta oo maaragtay caawiya sidaasoo kale maaragtay marka abudar jundub ibnu junaada wuxuu yidhi qisadaanuna waxay lahayd maaragtay xadiidkaanu qiso ku yimid maaragtay oo ninka jundub ibnu junaada abudar saxaabigaas kabiirka ah ayaa wuxuu arkay nin qoladii adeegayaashiisa ka tirsan oo jubbad wata asna uu jubbad wato marka jubbadana waxay leeyihiin maaragtay cafwan xullada waxay dharka isku joogga xitaa maaragtay dharkan Soomaalidu markii hore qaadan jirtay oo korna qaybna laga qaato maro isku nooc ah hoosna maaragtay shallaydi ha laga qaato ay ruuxadeedu hadii laba maro isku nooc yihiin waxa la xulla qayd iyo saaran oo isku nooc ah ayuu watay marka waliba ibn Hajar uu fasiro wuxuu leeyahay yani wiilkuna dhanna wuxuu ka watay mid duug ah midna dhanna mid cusub asna sidoo kale marka ninkiiba wuxuu ku yiri war wiilkan yar oo adeegaha adiga nin odayga ah labada maro cusub xulida cusub ma adigu isku wada gashatid markaas wuxuu yiri arintaan hadda koor igu dhacday
marka intii waxaa iska dambeysay maaragtay inuu ila mid noqdo labiska ila mid noqdo cuntada ila mid noqdo aanan xaqirin oo maaragtay waxaasaan maaragtay go'aansaday sidaas yiri maaragtay sidaas oo kale sababtu rajulan nin baan la caaytamay yiri faayartu bi ummi hooyadii ayaan ku ceebeeyay faqaala wuxuu yiri nabi wuxuu ku yiri ya abadarow ayartu bi ummi hooyadii miyaad ku ceebeysay innaka adigu imru'un ruux baa tahay oo fiika dhexdaada ay tahay jaahiliya marka waa muhiim arrintan fiika jaahiliya leeyahay waxa ku jira leeyiri dhexdaada jaahiliyo marka waxa laga wadaa ummadda muslimiinta ah ama qofka muslimka ah asagoo muslima oo iimaankiisu saadiq yahay ayaa waxa ku jirta sifo jaahiliyadii ay lahayd marka jaahili baa tahay lama dhihin gebiga dhan adiga ayaa lama dhihin laana sifo jaahiliyadii kugu jirta leeyahay sida daraadeed maaragtay culimada maaragtay mucaasiriintaana waa ka digeen macnaha in dadka muslimiinta dhammaantood lagu idlaaqo umma jaahiliya in la yiraahdo fiihim jaahiliya waxa ku jira laakiin dhammaantood haddii la jaahiliye waaye waxa ka dhalanaysa in la takfiiriyana in dhigooda la banaysto marka waa khatar arrintaas marka fiika jaahiliya marka arrintaas saas ku yiri marka waliba abaadar saxaabi weyn uu ahaayo arrintan xogaa waa qariibsaday markaasuu yiri ala kibiri sinni anigoo da'dan islaamada ku soo gaaray miyaa wali jaahiliyadii waxay iga dambeeyaan oo maaragtay anigoo waliba saas oo kale marka culimadu waxay leeyihiin waxa muuqatay in arrintan maaragtay inuu asagu markaas fahamsanayn uusan maaragtay fahamsanayn uusan isagoo og uusan ula qasnin ninkaas inuu arrintaas maaragtay ku caayo arrintan hadde nasabka la isugu faano iyo rasuulkuna uu sheegay xadiiska sahih muslim rasuulku uu dhahay arba'un min amri al-jahiliya afar arrinta jahiliya kamida ummadaydu ka zuulimaya marka waxa kamida al-faqru في الأنساب النسب لسوفان والضعن في الأحساب يدتك النسبية ذي إن للدور ومده هذه يقبضنت هذه يقبضنت يوحى كمذا ماركتي إن الغرب دون تحدق يوحى صورا ويماركت مركو حال لك قاعدنا إياه إنك امرؤ فيك مركو الجاهلية دا إيمان كيف هو سؤال ليس سوما marka baawul iimaan halkaas ka galay wax kasto amal xun qof la caaytintid waxa soo dhan iimaankii ayay maaragtay wax u dhimaysaa way maaragtay marka baabka iyo maaragtay meesha iska waafaqayaan markii la arko halkaas u dalishanaya jacalahum allah wuxuu yiri taxta aydiikum gacmiina hoostooda oo faman kaana ruuxu ahad aquu walaalkii taxta yadihi gacantiisa hoostiisa falyutcimu haquudiyo mimma yaakul wax cunayo وليلبسه هو يلبسه مما يلبس وحو لبسنيه ولا تكلفوهم كما شقيننا ما يغلبهم وحكا أذك شقاء أيسن قبكرين أو لبكوا كما شقيننا فإن كلفتموهم هديئة كما شقينين فأعينوهم وقرقارا باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما مركا باب كان وحقوق بابيستي laba arrimood mid waxa weeye macaasidu in iimaanka xudhibayso talabaadna waxa weeye macaasidu hadaysan diinka bax gaarsiisnayn in qofku wali iimaankii loo sugay sidaas way martay laanahu waxaan ognahay qatligu waa dambiyada ugu waaweyn haddana waxa la yiri iyagoo dagaalamaya ayaa mu'miniin lagu tilmaamay wa in daa'ifatani laba kooxood oo min mu'miniinta kamida iqtatalu haday dagaalamaan marka daa'ifatani min almu'miniina waliba iqtatalu wana dagaalameen ali marka dagaalida ay dagaalameen inay tahay kufri laakiin duuna kufri yani dambi weyn oo aan gaalnimo diinta looga baxan gaarsiinayn way maartay marka waa muhiim fa aslihu baynahuma maartay hagaajiya marka dagaalkuna waa laba nooc maartay hadii qofkan ula dagaalamo dhiigiisa adoo xalaashanaya markaas diinta looga baxaya laakiin iyadoo casabiyo iyo shaydaan ku xambaaray haday tahay uu og yahay inuu maaragtay dagaalkiisa uusan xalaal u ahayn dhiigiisuna uusan xalaal u ahayn maaragtay waa maaragtay kuma gaaloobay maaragtay saas laga wadaa waxa kale laga qaadanayaa sidaasay tahay iyadoo qofku soo dhiigiisa ruux xalaalaysan hadduu qof la dagaalamo ama inuu la dagaalamo u go'aansado inay dambi aad u weyn tahay oo naarta lagu galo
ها sidaas oo kale عن أبي بكرة وحال لغوريي رضي الله عنه على كرادنا قال وحوري سمعت رسول الله إلى رسول كسان مغلي يقول إسوا داعية إذا قرتي التقى كلمان المسلمان لوضع المسلم بسيفيهما لبيض السيفوت لبيض قري لبيض السيفوت لبيض المدفع أحوال بين نقوان كرتا لبيض أولاد فالقاتل متك واحد دلي إيو المقتول كلا دلي في النار نارتك سوين فقلت وعن يا رسول الله إلى رسول كسيو هذا كالقاتل واحد دلي يعني أمر واضح وحاو نارتك قليو أرنت سوي عدها وان قراني منك واحد دلي وحاو نارتك قليو إيه فما بالو المقتول كلا دلي محو ناركم متيستي قال الرسول كحيري إنه كلا دلي ومقتولك كان وحوها حريصا متكو داليد بدن على قتل صاحبه منك صاحب كيسو إساق لدى قالمي دل كيسة أيو أدو دلالي إنو الدلو رباس بوا لقال ورمري مركا إساق روحات دي سنة وحال لو قرانيا نيدي سيا لو قرانيا مدام إنو الدلو قعان سوي أي سيا لو قرانيا مركا حديث كان روحات ديسو قصة ولهاي مركا قصة دي سنة إنا حسوستين وفي عنتا يعني واحد جيري نين ليرا هذا الأحنف بن قيس الأحنف بن قيس أو أها من تابعي تابع النبي سنة لكن وحي أهد مخضرم اللي هذا مخضرم وحال اللي هذا قفك رسولك أركي لكن مركز عن إسلام هين ديننا كسر إسلامي مركز تابعي لما ديكر الصحابي لما ديكر عفوا لأنه الصحابي شرط يساوي حوجهي من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك marka labada shardi leeyahay qofku markuu rasuulka arkay inuu muumin ahay islaamnimada uu ku dhinto hadduu markuu rasuulka arkay uu san muumin ahayn oo dib ka soo islaamay saxaabi lama dhigi karo sidoo kale hadduu markuu rasuulka arkay uu muumin ahay laakiin uu gaalnimo ku dhintana lama dhigi karo maaragtay saxaabi lama dhigi karo marka ninkan waxa marka saxaabadaas waa badan yihiin muqadaramiin aliyaha muqadaramiinta waxa lagu baxshay waxay u banaayeen meeshaan la yiraahdo Yaman rag fara badan oo rasuulku intuu joogay rumeeyay laakiin aan iimaanaa jiray oo xaq iska joogay marka cid walba oo xataa rasuulka aragtay oo aan markaas rumeeyay dib ka rumeeyay ayay ilxuunta maadaama ay rasuulka arkeen haddana ay muslimiin yihiin marka sidaas oo muqaddar saas oo marka ninkaas oo dagaalkii Ali ibn Abi Talib iyo dhaxmaray Muawiya u socda ayaa waxa ka hor yimid Abi Bakr ninkan la yiraahdo Abi Bakrna marka magaciisa asigana waxa la yiraahdaa Nufay ibn al-Harith ayaa la yiraahdaa Nufay ibn al-Harith ayaa la yiraahdaa Nufay ibn al-Harith ayaa marka waa reer Thaqiifo waa qoladii maaragtay degi jiray Taif ee maaragtay degi jireen marka Abu Bakrna waxa loogu baxshay markii magaalada Taif la hareereeyay oo dagaalka rasuulka ila dhaxmaray ayaa rasuulku wuxuu yiri wareegto soo saaray wuxuu yiri cid kasto adoona oo gaalada xaggeeda ka soo wareegta oo xaggeena soo gasha waa la xoreynaya marka ninkan wuxuu sameeyay bakrada waxa la yiraahdaa wadaanta bahalka girgirkeeda ah wareegsan hada meeshan xisaara u dhaxeeyo meel maaragtay oo dhisan oo ayaa u dhaxeeyay halkaas oo inta meel kamid ah surtay maaragtay xarig oo girgirkaas inta qabsado ku soo sulugay markaas uu xaq u soo booday markuu yimid rasuulku waa xoreeyay sida daraadeed culimadu waxay dhahan mawla rasuulullaahi ku daran yani rasuulku midkii u xoreeyay hada markii horena hooyadiisa adoonaheed marka aabihiis maaragtay wuxuu ku adoonsaday waa hooyadiisa adoonaheed daraadeed ma ahane nin markii hore adoon ahaa jiray maahan jaahiliyada xukunka u degsanaa wuxuu ahaa naagtii adoona ilmihii laga dhalo ayagana waa adoon ayagana waa la adoonsanaya marka islaamku waa baabiyay markaas wixii maaragtay naag adoon laga dhalo marka cala duulayba waxay u noqonayaan automatic qof xoroho sidiisa marka sidaas uu ahay marka nin kale oo la yiraahdo Ziyad ibn Abihi ayaa maaragtay la dhashay oo isaguna xikaayo kale leh ana Abi Bakr marka ninkaas wuxuu ku yiri markaas uu dagaalkii u socdo arkay markaas wuxuu ku yiri ka joog xadiiskaanan ku sheegaya hawsha ka joogi marka kamana joogin dagaalkii waa u galay oo Ali uu la saftay wax badan maaragtay uu la joogay ninka Ahnaf
samictu rasuulallahi ilahi rasuulkiisa maqlay yaquulu isagoo dhahaya ida iltaqa almuslimaani labada muslim haddii ay kulmaan bisayfayhimaa labadooda sayfood ay ku kulmaan falqaatilu midka wax dilay iyo walmaqtuulu kan la dilay fi naari naarta ayay ku sugan yihiin qultu waxaan ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyow haadaa kaas alqaatilu ee wax dilay hee amruhu waadix yacni waxa uu naar ku mutaystay waa iska waadix ee fama baalu lmaqtuul kan la dilay muxuu naar ku mutay qaala rasuulku wuxuu yidhi inahu kan la dilay kaana wuxuu ahay xariisan mid ku dadaalid badan calaa qatli saaxibihi midka asiga dilay inuu dilo asbar rabay sidaasoo kale maarata marka xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa yani waa axkaam aad iyo aad u fara badan oo kutubta inaad aad uga raacraacdiin ay ku fiican tahay yani xadiid kale ayaa wuxuu leeyahy man hama bisayi'atin falam yacmalha qofkii xumaan hamiye oo aan camalkeeda samaynin yani waxaa loo qoraa xasana kanuna wuxuu leeyahay ninkii xumaanta hamiyey naartuu gelayaa marka culummadu waxay leeyihiin waa kala bedelan yihiin marka furuuq fara badan ay ku kala farqiyaan oo aanan hadda faahfaahinayn lakin furuuqda waxaa kamid a qalbiga horta wax kusoo dhaca ayaa kala weyn ilaa 5 qaybood waay culummadu dheheen hadduu ruuxu go-aansado inuu qof dilo ama wax xumaana sameeyo oo weliba uuna isku dayo ay u suurtogeli weyso kaas isagoo dilay lamid taha horta ha oo mathalan haddeer nin baa tuugahoo gurigii jaranjaradii iyo waxba maarata inta koray uu arkay meeshii inay leedahay qaraarado ama waardiyihii arkay waa ka cararay hadda ninkaas camalkii waa sameeyey moogta marka kaas wuxuu lamid yahay maarata qofkii sameeyo kale sidoo kale hadduu go-aansado laakiin intuu dib uga fekero ilaahay dartii uga laabto xasan uu leeyahay kaas marka waa baabkaasu sidaas u kala bedelan yahay waxaana kaloo kala bedelan waxa leeyahay haajis iyo xadiithu nafsi iyo caziima waxaasoo dhamaa jira haajis waxa weye wax qalbiga iska kaasoo dhacay kaasoo lama qabtaba oo maruu qalbigu maraya hore u gudbayaaba ha wax qalbigaada ku sugnaadayna maaha kaa lamaba qabtaba waana midkii rasuulka sala allahu alayh wasalam markii ay soo degtay wain tubduu ma fi anfusikum oo tukfuuh yaclamhu yuxaasibkum bihi llah haddaad qarisiin wax qalbi ku jira ama aad maarata muujisiin intaba waa linku xisaabaya marka saxaabada aad ay arrintaas ula weynaatay markaas ayaddaa soo degtay aamana rasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuuna kullun aamana billah yani ma waxaad rabtiin inaad tiraahdeen sida yahuuddu tiri maaragtay samicna wacasayna marka mayay yidhaahdeen marka sidaas marka laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscahaa soo degtay markaas oo mararka qaarkood qofka qalbigiisa waxaa iskaga soo dhacaya wax saxaabadu waxay yidhahdeen maaragtay buuraha ka weyn oo yani marmaraad naftaada ku fakeraysa xataa ilaahay marka wax qalbiga saa isaga soo dhacaya lakin mustaqar aan ahayn kaa lagu qabamayo maaragtay marka taasna waa sidaas marka xadiidkan baabka waxa loogu keenay acmaasha haddaan qofku xalaalaysan xataa in kasoosan xalaalaysan qof muslima dilkiisa maarta in lagu madano oo dembi weyn uu yahay saasay tahan hadduusan xalaalaysan oo weli iimaanka sifadiisi wato ida iltaqa almuslimaan waata weli leeyahay waata kaloo laleeyahay wain daa'ifataani min almu'miniin waata kaloo qur-aanku uu leeyahay fain cufiya lahu min akhiihi shayun ayagoo isdilay ayaa leeyahay waa walaalkiis weli macnaha kama bixin sidaas oo kale baabu dhulmun duna dhulmin yani dhulmi oo dhulmi kale ka hooseeya gardaro kale ka hooseeya sida aanu leeyahay kufrun duna kufrin ayaa jira ayaa haddana waxaa jira dhulmun duna dhulmin marka dhulmiga macaasidoo dhan ayaa lagu idlaaqa laakiin dhulmi waxaa jira gaalnimo ah oo weyn ina shirka la dhulmun cadiim midka allah subxana wa tacala uu yidhi waa midkaas midka akbarka ah wixii ka hooseeyana kaas waa dhulmun duna dhulmin dhulm duna dhulmin marka dhulmigu waa saddex qofku naftiisa inuu dhulmiyo inuu dadka kala dulmiyo inuu allah dulmiyo allah dulminta uu dulminayo waa macaasidoo dhan oo uu wen yahay shirkigu marka sidaas oo kale maartay can cabdillahi bni mascuudin waxaa laga wari radi allahu canhu alla ka radli noqdee sidaa daraaddeed qur-aanka u fiirsada yani haddaan ruuxu qur-aanka jamcin oo macaanidiisa uusan u fiirsan hal aayad kaliya haddaa qaadata qur-aanka horta waa backage isla socdo inaad waa fahamtid ay tahay qur-aanku ma dhulmi wuxuu ku sheegayaa gaalkii waalkaafiruuna hum adhaalimuun ma lidaalimiina min xamiimin
ولا شفيع يطاع marka gaalka laga wada dhulmiga akbarka ay qofka galay way mar ayadoo dhulmiga oo dhaalim quraanka lagu tilmaamay laakiin qofka wali muslim yahay quraan ku jirto sida raajixa thumma awradna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi ku kitabka la dhaxsiya dhalim kamid yahay waa qofkii maaratay acmaashi maaratay kawaa'irti qaar ku dhacaya wali islaamka asalkiisina haysta marka waa dhalim marka عن عبد الله بن مسعود وحلب رضي الله عنه قال كربنا عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحكوري قال حيري لما نزلت مركي سودكتي الذين آمنوا كوا الله رميي ولم يلبسوا أن كبر حن إيمانهم إيمان كذا بظلم مارتي ظلم أن كبر حن أولئك لهم الأمن كوا سحيليه النبت قليو ونارت إن لقواري كان بتقران وهم مهتدون وحين إليهن هنونيت أي مارت الجنة كو هنونان مركي آيات سودي قال أصحاب رسول الله إلى رسول الصحابة سحير عنه أينا كنبا لم يظلم أن ظلم قليل يعني وحي يعني وها لو كان سباب كنا فهمتي دوي عد أننا نجمعهم ظلم قليل أن ذنب قليل ما جرت ها قفك مرك إيمان كيسة مرك ظلم يعني وحي كونا ظلم عام كهايو ذنب كسول جوا ظلم مرك هدي اللي يرهده مرك آيات وحي لا هي qofkii iimaankiisa aan dhulmi ku barxin amni u leeyahay qofkii dhulmi ku barxana amni ma lahan marka halkaas ka baqaya ayow marka hada dambi galnaba amni waa nooga dhamaatay miya iyo ihtidaa labadiiba marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam kuma diidin in macsiyo walba ay dhulmi tahay laakiin aayadan dhulmiga laga wado u fasiray oo yiri فأنزل الله إليه وحسودجي إن الشرك شركه ألم تسمعوا قول العبد الصالح سيدا حديث كالأولي مارس أدونكي وانا السناي واللقمان هاي قول كي سمية نان مقال الله ويري ويل كي سمركو لدر دارمي إن الشرك شركه لظلم وقردراء عظيم آد وين ويمارت مركا وحاوي الذين آمنوا كوا اللهم ولم يلبسوا أن كبرحين أو أن كدهن إيمانهم إيمان كود بظلم شرك أن كدهن أولئك لهم الأمن لأنه قالوا بلن كيدو إيمانك النوع كمده إليه لكن أنا وحبا أنفعين إيمانك وحا كمده إنه رميسين الله إعرك إنه أبوري دولك إنه أبوري روبك إنه كانوا كليس وحنولي كلي وحدلو ساسي رميسين هنا عبادة عد كلي سينا يانو عد كلي بري يانو عد كلي تلسارنا يان مركا إيمانك داسو وإيمان شرك اللي قدري مركا وحبا أنفعين ما يكاس مركا كان شرك يالقوض مركا وآيات كلي لما عنا تهيو وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إيمان كوداس أو إيمان كالربوبية الله يأمن سيهين وألوهية أيسان مارتي آمن سنين مارتي إيمان اللي قلت الماوي لكن وحبة تري ماي لأنه وحال اللي قلت شرك بالله قلت ماي مركا حديث كان دلالة أو كان سريباب كحوي ظلم دون ظلمنا جرو ظلم أقوي وشركة ظلمية كلا قفك ومعاسية حدوق قالوا وحوي ولي أمني يهدايدي وأوليه سلا سوكاي ويمارت بابو مركز سيدو كلا عن سيدو كلا كدرو فسقي معناه الفاظ القرآن كان أو فرسيدو سيدو ظلمي وقرآن كو سوارو سيدو كفر سيدو ماركتي عصيانا أو سوارو فسقي جنوا سيدو كلا فسقي مر وها معاصي وين هي لولا جيده مثل آيات القرآن كهد الذين يرموا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا مركب حقول هي وأولئك هم الفاسقون مركب دينتي كمبحين قفك قلف قفك سماية لكن ذنبي وين وقال فاسق وحوي ضاعدي إلهي وكبحيو ما رأتي وحي سمايي ما رأتي وح أن هبونين أيو سمايي مركب لو مجيده وكفر فاسق أو وحا قرآن كسو أرور قال كاللو جيده ومن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون مركا مؤمنك أدو كفر جيده مركا وقالك إسلا آيات آخر كيده وأما الذين فسقوا فمأواهم النار هو يجيسو مربا النار هدو يهي إيمان بمالهين ويأس ده حسل كيس مركا واحد سيداس مركي لا أركم مركا الفادان سيداس وكلا صعود كفر الروح الديسة ظلمك فسقك hadba meesha uu galo iyo waxa loola jeeday ku xiran tahay maaragtay baabu calaamatin munaafiq
munaafiqa calaamadiisa. yacni nifaaqu wuxuu wax u dhimayaa maaragtay iimaanka. marka nifaaquna waa laba nooc, nifaaq ictiqaadiya iyo nifaaq camaliya. nifaaqa ictiqaadiga ah waa midka qofku diinta uga baxayo, diinta dhanba uu ka baxayo wey maaragta. nifaaqa camaliga ahna waxa weeye iimaankiisibaa ku dhinmaya laakiin diintii maaragta uga bixi mayo. marka kuwan ayaa camaliga ka mid ah. weliba kuwan oo camaliga qofku nifaaqa camaliga hadduu sameeyo wuxuu khatar ugu jiraa inuu maaragtay uu nifaaqi rasmiga ahay gaaro oo ictiqaadiga ahayo oo diinta looga baxayay. sidaa daraaddeed culummadu waxay dhahaan almacaasi bariid lkufr. macaasidu waa boostadii gaalnimada loo gaarayay, waa wadadii gaalnimada loo gaarayay. marka dulmu duuna dulmi qofku hadduu sameeyo dulmiga weynna inuu sameeyo ayuu u socdaa. hadduu kufrun duuna kufrin sameeyo inuu kufriga weyn sameeyo. hadduu nifaaq camaliya sameeyo inuu nifaaq ictiqaadiyana sameeyo ayuu maarata khatar ugu jiraa. baabu calaamati lmunaafiq, munaafiqa maaragtay calaamadiisa. marka nifaaqa luqadda carabiga waxaa lagu yidhaahdaa godka labada af leh, oo waktigii maaragtay maka waxaa ku ooli jirta bahalkan ah dabagaalaha ayaa wuxuu leeyahay god markaad halkan uu ka galo wuxuu ka baxa dhanka kale. marka nifaaquna waa laba af leh. macnaha luqadda carabiga asalkiisana waxaa lagu yidhaahdaa islaamnimadan waxaa loo jeedaa qof islaamnimo muujisanaya laakiin man yudhiru lislaam wa yubtinu lkufr, gaalnimana qarsanaya. kaas wey maarata. maana laba af uu leeyahay, qalbigiisana waxba wata, afkiisana wax kaloo ka sheeganaya wey maarata. marka midka camaliga ah gaalnimada loogama baxo wey maaragtay. oo baabka iimaanka sidaasa loogu sheegaya qofkii weli waa nifaaq duuna nifaaq oo ayaa kala hooseeya. can abi hurayrata waxaa laga radi allahu canhu alla ka radwan can nabi nabiga wuxuu ku yidhi sal ly slam qaala wuxuu yidhi aayat lmunaafiqi munaafiqa calaamadiisu halaathun saddex weeye. idaa xadatha hadduu sheekeynayo kadaba wuu been sheegaa. hadduu sheekeynayo wuu been sheegaa. beentu waa da'bigiisa. marka weliba hadduu qofku beenta laazimo khataru ku jira inuu nifaaqii rasmiga ahay diinta looga baxayo u galo. lannahu rasuulka xadiidka wuxuu leeyahy ina arajula layakdib wayataxara alkadib xataa yuktama cinda allahi kadaaba waina alkadiba layahdi ila alfujuur waina alfujuura yahdi ila annaar. marka waa khatar iyaduna. waidaa wacada hadduu maaragtay ballan qaadana akhlafa ballantii uu buriyaa o ballan ka baxyo. waa khatar, ballantuu ka baxa. marka culammadu waxay leeyihin haddaad qof inta la ballantid aada cudurdaar iyo wax yeelatid ood sida kusoo daahidid iyo haddii aad marka hore la ballamaysidba aad rabtidba inaad uga baxdidba taasaa u khatarsan. yani dadka qaarkood mararka qaarkood tasaahulku faraw ka bad. marka ballanta aad iyo aad ay muhiim u tahay. waxaa la sheegayey laba nin oo caraba oo xaramka dhexdiisa ku ballamayo uu leeyahy ana abqa mawcid britani, waxaan rabaa ballanta ingiriiska sidiisii oo kalea xaramkii ilaahay iyagoo muslimiina. yani waa wax cajiib leh. gaaladii iyo ballantii samaynaysa muslimiinta waa isu goynayaan. marka in ayagii lagu dayso islaamkaana laga keena ballanta maaragtay lagu maaragtay waa khatar iyada. waidaa wacada hadduu wax ballan qaadana akhlafa wuu ka baxa wey maaragtay. ballantii wuu ka baxa. hadduu qof yidhaha waxbaan ku siinaa, hadduu la ballamo meel inay kula kulmaan kula ballamo sidaas oo kale. hadday beec ku ballamaan oo maaragtay wixii contract wax ku heshiiyaan wixii heshiiskii wuu jebiyaa. waya'tumina haddii la aaminana khaana wuu khiyaana. haddii la aamina waa khiyaana. bal macnaha waxay tahay da'biga qofka walaa takun man khaanak, qofka adiga xitaa ku khiyaana ha khiyaanin adigu. marka saddexdaas waxay leeyahay hadday kulmaan oo qofku beenlowna uu yahay, ballanka baxyadiisu badan tahay, khiyaanadiisu badan tahay, yani saddexdaas qof muslimaba isuma darsamaanay leeyihi. markaa inuu maxdi noqdoba oo munaafiqi rasmiga ahay uu noqdo ayuu khatar ugu jiraa wey. can cabdillahi ibni camar waxaa laga weri radi allahu canhuma alla kala noqdaa an nabi sal ly slam qaala wuxuu yidhi arbacun afar man ruuxii kuna ay ahaadaan fiiha isaga dhexdiisa kaana wuxuu ahaanayaa ruuxaasi munaafiqan munaafiq kaasoo khaalisan baraxla. munaafiq khaalis ou noqonaya afartaasu qofkii ku kulanto. waman ruuxii kaanad ay ahaato fiihi dhexdiisa khaslatun tilmaan ama xaalad oo minhuna afartaa ka mid ah
أفرتها هل حالة كمية قفك كجرته كانت فيه أسيق الحديث وها أنيسة خصلة صفو أما حالة أو من النفاق منافق نماء حالة منافق نماء كجرته حتى يدعها إلى أكتوه مركا أفرتي محيهين وأسد حديث للصوص شاقي يمد القدر إذا اؤتمن هدي الآمنه خانة وخيانة وإذا حدث هدو شاكينا كذب ومارت بين شيقة نيوم بقى وحي كليهن أنا هدي أنا بالشاكذا بين يربع أنا كودين شاكذا عصبية لما يسكوليه شاكذا عصبية قرحة ما يس مركا واحد جيب تاس وإذا عاهد هدو وحبلان قادو أهدي هشيس قلنا غدر ونكراو وكبحه وإذا خاصم هدو روح للدودنا هدي قف انتي وحده حمران وقف لقررتمو أما محكمة لك كانوا أو دود ديسة أو دود ينا فجرى ودن باباه فجورك وحا اللي هذا وحاوي بيها صوبر قضاء اللي هذا فجر يعني ننكاس دم بيها كصوب دحي وصومالي وريا وانا الدباجي كلين انت قفك واحد والبقولو عايو وانا الدباجي كلين لكانو marka fajadu waa sidaas yaani qofkii inuu maaragtay ama nasabkiisa wax ka sheego ama uu maaragtay uu been ka sheego ama shakhsiyadiisa wax ka sheego ama uu maaragtay uu dhaar beena uu maaragtay ku daro sidaas ilaano wuxuu rabaa isagu maadaama gar la isku qabsaday inuu garta isagu xoog yeesho by any means wax walba la marto marka waa dambaaba beena ku dhaaranay waxa soo sheega يعني سيدة صحدانا وحوالي قفكو أديقو قرطة هذه الشيغانا يا قفك كان حقيسي هي شخصية ديسي إن هذا نكو حد قلب آيات القرآن كانوا واتي لهيسي الله سبحانه وتعالى أقول هاي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين مالك والأقربين كو دو أما نفت هذا باعاته شهداء بالقسط هذا عدالة مالك وتأيد كلا دهيسي ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا قف ما تي نعيب أبو قبتي عدالة إنك كتكت هي سمارت كوكينين قفك عدالة مركوت مركا على مداها مركا قفك ميد كميد الله جهله إنه ولي إيمان كي هيستو لكن نفاق عمله كجره هي مارت هالك على قاعدنا إياه وأنا صحابة آدي وبقي جيران ماركت وحوي عبد الله بن مليكة وحنا كي تضباط صحابة الرسول كأه ومن والبؤ كمغاي يخاف على نفسه النفاق الحسن حسن البصري وحوي به جري لا يأمنه إلا منافق ولا يخاف منه إلا مؤمن سيدا سوكا يعني قفك النفاق كما آمن نقض إلا قف منافق ما هنك منافق لماذا قف آمن كأهو أنا منافق لماذا بنانك داعي ومنافق ويش قفك كبق أنا ومؤمن ويش نفاق كبقى هو خطر أيضا باب قيام ليلة القدر ليلة القدر كه أو الاستاغو أو الصلاة للدكادو من الإيمان إيمانك كميدي إيمانك أيو مارت كميدي هاي عن أبي هريرة وحلق رضي الله عنه على كرام المضي قال حير قال رسول الله إلى سوري سعيري من روحي يقوم استاغه ليلة القدر ليلة القدر كقفك استاغه oo salaatu leelka u istaaga iyo salaadaha kale waajibkaaba iimaanan isagoo rumaysan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa fadliyo ku sheegay inay dhab tahay alla u rumaysan wax ihtisaaban ajr xisaabsanayo allah ugu dhawaanayo asagoo maartay waa cadaal sameeyay ama dadku kugu arkeen ama dan kale aysan ahayn ilaahay darti alla ugu dhawaawo ka ajr xisaabsan daraadii habeenkaas uu istaagay wufira lahu wa loo dhaafaa ما تقدم وحي هرمري ومن ذنبه ذنبه ساعة مركب علماء وحي يراهدان ماشا النقطة يراه كجرته ومثلا مركي لغا هلا صومك إنه إيمان كميدي هاي وحال يري من صام رمضان فعل ماضي الاستعمال قفكي صومه مركي لغا هلا سيدو كلا تضوعه إن صلاة الليل كهبينك اللي دكوية تراويح ده أيضا وحالي من قام رمضان قفك أقمر فعل ماضي الاستعمال لأنه وحالي ووحد حقه قفك هو بالله باس إنه الله سمعيه لكن ليلة القدر إذا توافقه في موقت مركز وحالي من يقم فعل مضارع على الاستعمال أيضا
qofkii waafaqa wey marka midaas ninkii hela sidaasoo kale ma marka aad muhiimta waa nugta cajiiba man yaqum qofkii u istaaga laylat alqadri qadarka habeenka marka waxa la qadar iyo qadri labadaba waa la yiraahdaa bil iskani wa bi fatha hadii la yiraahdo marka qadri hadii la yiraahdo waxa way habeenkii sharafta lahayd oo waa habeen khayr min 1000 shahr sideetan iyo 4 sano oo cibaado intaas u taagneedo aan mar dambi gelin ay ka khayr badan tahay marka aad u weynto sharaf ay leedahay hadii la qadar hadii la yiraahdana oo la kor dhigana waa habeenkii qorshaha oo macnaha waxa ilaahay qadarka hore uu balan gareeyay laakiin malaa'igta ayaa waxa la siiyaa malafka sanadkaas habeenkaas la siiyaa marka waa habeenkii sanadka qorshihiisa la bixinay waxa weeye inna anzalnahu fi laylatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim habeenkaas marka sidaasna waa ay u tahay iyada iimaan wax ghufira lahu waxa loo dhaafaa ma taqaddama wixii hormay midan dambigiisa waa habeen marka habeenkaas oo la waafaqo in ay kamid tahay maaragtay iimaanka maaragtay in kamid tahay oo iimaanka ay badinayso oo intaas oo sano amalad sameeynaysi iimaankiisa ay ku kordhinayso ee maaragtay lagu sheega marka baabul iimaanka saas lagu daray baabul jihad min al iimaan jihadku inuu iimaanka kamid yahay marka yani sheekhan aad u cajiib u leeyahay abwaabadu xataa si isugu xigaan waxay ku leeyihiin munaasaba ka dhaxaysa oo kutubta ay sheegayaan يعني جهادك يا ليلة قدرك محل سوحجي ليلة قدرك إن هذا وافق جهادي وبهانته دجال ده هذا أي وبهانته جهادك مشقة يتعب يا سيدنا كجل السياسة وكله باب الجهاد جهادك من الإيمان إيمانك أيو كمدي هاي جهاد وحل هذا دلالك اللغة العربية لكن هذا وحل وجه ذا قفك أدى علمه لإعلاء كلمة الله إعلاء كلمة دي إني كور نقطه إسلامك مسلمين إني كور نقطان كاسل وجهه وعنه وحال جوري أبي هريرة رضي الله عنه على كرم ونقضي عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحكوري قال وحيري انتدب الله وحو أبلن قاضي أو أكفال قاضي أو الله أودد الجني أبا المركيس أو ماركتي ثواب كيسة عز وجل لمن روحي الله وحو أبلن قاضي خرج بحي في سبيله السجى ودي سكوب بحي لا يخرجه يسوي يسبحين إن روحاس إلا إيمان بي أنا إرهمين أو إرهمين يا مويان الله سبحانه وتعالى أيها الله والله سبحانه وتعالى وحوليه هاي الله وحب لنقاضي قفك إلهي جيتك سكبحة يسوى إسنسارين إلا إيمان بي إرهمين أنا إرهمين الله سبحانه وتعالى أيها الله marka waxa ku jira wixii hadaan sheegayno iltifaat waxa weeye intadaba Allah iimaanun bi iyo tasdiiqun bi rusuli marka khitaabkii waa markii hore Allah wuxuu balan qaaday rumayn aniga li rumayn marka intadabtu waxaan balan qaaday lama dhihin rumayn marka hadalkii qaabku ku socdaa la wareejiyay oo ah markii hore qayb u ahay ka bacdi khitaaba laga dhigay takalluma laga dhigay illa la yukhrijuhu isagoo isan saarin illa iimaanun bi aniga uu rumaysan yahay وتصديق برسول رسول شيء ومارتي ورمينيو وحن محن أبلغ قاضي أن أرجعه إن سؤاليو بما نال مع ما نال وحا جاري لجير كده ومن أجل أبا المرنة أو غنيمة أنا أما غنيمة أو أدخله الجنة أما الجنة إنا قريش ومعناه وحاول هدو دنتنا jannaan gelinaya hadduu soo laabtana abaalmarin weyn iyo ghanimo isagoo wata ayaan la soo celinaya okay ama waxa weeye haddii uusan ghanimo helin ajarkaas ayuu helayaa iyadana marka awdaas waa sidaas laana dadkii jihaadka aadaya nin waxa weeye waa ku soo dhaawacmaya mid waa ku soo dhimanaya mid ghanimo soo helaya mid isagoo wuxuu soo laabanaya غنيمة وحبه هلين لكن دجال كسر قيب قاتي من والب مركب قيب تسوليه نيجي كل إنتنا الجنة وليه هاي كي حول سؤالنا غنيمة دي سو هلي أجر كينا وهليا قف كي عن
aan maaragtay aan haniimo helina abaalmarintiisa u leeyahay maaragtay walowlaa an ashuqa haddii aanan ka baqayn calaa ummatii ummadeyda haddaan ummadeyda dhib uga baqaynin walowlaa makhaafatu lmashaqa calaa ummati haddaanan dhibaato ummadeyda uga baqaynin maa qacadtu ma fariisteen khalfa sariyatin ilaalo dagaal u baxday gadaasheeda ma aanan fariisteenoo kama hareen walawadidtu waxaan jeclaa lahay annii aniga uqtalu in lay dilo fii sabiili illahi ilahay jidkiisa laygu dilo uma uxyaa dabadeedna la inooleeyo uma uqtal dabadeedna la idilo uma uxyaa dabadeedna haddana la inooleeyo uma uqtal dabadeedna la idilo yacni waxaan jeclaa lahaa in ilaahay jidkiisa laygu dilo la inooleeyo la idilo la inooleeyo haddana la idilo oo hadda intaasoo naf inaan yeeshaan jeclaa lahaa macnaha abaalmarka weyn oo jihaad ku dirta daraaddeed marka iimaanku wuxuu ka mid yahay waxa loo baxay liannu ilaa iimaanun bi wa tasdiiqun birasuulilah waxay tusinaysaa jihaadka wax ruux u baxaya hadday tahay alla rumayntiisa jihaadka ruuxadiisa iimaanka ka mid ah wey maaragta marka mashaqada ummadda kula jirtana waxa weeye waxaad ogtihiin saxaabadu waxay jeclaayeen rasuulka inay markii la arka daba socdaan hadduu rasuulku marka dagaal walba aado waxaa dhacaysa qof walbana safarka u suurtageli mayo duruufihiisii markii la arka ma diyaarsana marka inay saxaabadu dhammaantood wada raacaan wada mashaqay marka noqon lahayd marka rasuulku waa kala agaasimayo qayb isagaa tegayey qayb xuraga u dirayay sidaas oo kale marka sariyax iyo ghazwah waa kala labo sariyax waxaa markii baabka xadiiska iyo la joogo siyarka waxaa la yidhaahdaa ciidanka uusan rasuulku la socon dagaalkooda sariya la yidhahdaa ghazwina waxaa la yidhahdaa dagaalka uu rasuulku ku jiray marka sidaas oo kale marka labadaas sidaas u kala farqinaysa maaragta walowlaa an ashuqa haddaanan ka baqayn haddaysan jiri lahayn calaa ummati ummadeyda maa qacadtu ma fariisteen kharshfa sariyatin ilaalo gadaasheeda walawadidtu waxaan jeclaa lahay ani aniga uqtal in la dilo fii sabiilillah ilahi jidkiisa uma uxyaa la inooleeyo uma uqtal la idilo uma uxyaa la inooleeyo uma uqtal la idilo baab tadawucu qiyaami ramadaan min aliimaan ramadaanka oo loo istaago oo macnaha sunnada ahi salaadu waa nooc sunna iyo nooc waajiba cishaha iyo maaragtay salaada subax iyo waxa weeye waa waajib laakiin ta kale ee sunnada ahee salaatuleilka ahee ka dambeyda waxa weeye oo loo istaago min aliimaani iimaankay ka mid tahay iimaanka ayay ka mid tahay iimaankay kordhinaysaa wey maaragta wa canhu waxaa laga wariyey abaa hurayra radi allahu canhu alla ka radnoonade aydan sidoo kale sida xadiidkii horeba looga wariyey oo macnaha waxa weeye saddexdii xadiid labadii ka horreeyday isagaa laga wariyey kan ku soo socdana isagaa laga wari doonaa iyo ka kusii xiga wey maaragta aad u xadiis badan yahay aad wa canhu abaa hurayra waxaa laga wariyey aydan sidoo kale radi allahu canhu allah radi noqday ana rasul lah ilah rasul qaala inuu yidhi man qaama ruuxii istaaga ramadaana ramadaan iimaanan isagoo alla rumayn alla u rumaysanya daraaddeed iyo ixtisaaban alla ajar xisaabsi inuu alla abaalmarin uga helo darteed saa u samaynaya gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah ayaa loo dhaafaa marka salaatu leilka la dukado ama ramadaan ha ahaato ama keyrkiiba ha ahaato iimaankii ka mid tahay ramadaankana sidaanay gooni ugu soo aroortay oo macnaha waxaa jirta mawaasimta khayrka yacni wixii la sameeyo ajarkoodu waa ka badan yahay ajarada kale sidaas oo kale iyo amkinada xitaa masalan ajarka aad baytullahi alxaraam wixii wanaagsan aad ku sameeyay ajarkoodu waa ka badan yahay dembigeeduna waa ka wen yahay sidaas oo kale baabu sawmi ramadaana ramadaan la soomo iimaanan ixtisaaban ajar xisaabsi in ilaahay ruux uga ajar xisaabsada daraaddeed uu u soomo min aliimaan iimaankay ka mid tahay wey maarata wa canhu waxaa laga wariyay abaa hurayra radi allahu canhu alla kala qala wuxu yhi qala rasulullah ilah rasulkiisa wuxuu yidhi man ruuxi saama sooma ramadaan sooma iimaanan rumayn allah uu rumaysanya dartii iyo ixtisaaban ajar xisaabsi daraaddeed gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah baabun addiinu diintu yusrun waa fudayd baabkan iimaanka waxaa loogu soo daray diintu inay fudayd tahay oo macnaha waxaa weeye iimaanka camalka la daa'imo oo joogtada ah
ayaa aada u xoojinaya ee camal intaad mar isku dhiftid aad kabacdiina aad ka noogtid iimaankii xooji kaasi waxa weeye mana ahan maaragtay mid oo la daa'imi karo fiican iimaankiina waxaa uga xoog badan midka kale wey maaragtay oo culummadu maaragtay waxay ku fasiraan wax cajiib badan ma ogtahay waxay yidhaahdaan haddaad fuusto qaadatid oo aad biyaha saas hal mar u daadisid waxaa markiiba markaa saa u taabatay ciiddii hoose ka soo baxaysa laakiin haddaad fuustadaas meel yar aad ka dilaacisid oo biyahaasu dis ay socdaan laga yaabo dhowr maalmood inay socdaan dhowr wiig xagee dhulka gaarayaan marka salaadii aad habeen dhan kusoo jeedid iyo 2 ragco oo aad cumrigaada waday ama 3 ragco oo witr oo cumrigaada waday waxa weeye waa sidaas oo kale kala yihiin sidaas oo kale ay kala yihiin sidoo kale sadaqaduna waa la mid inaad qof agoona $20 u qortid weligaa iska bixid inaad maalin milyan bixisid midda joogtada ah fiican oo lagu intifaacay maarta oo aad adiguna awoodid maarta باب الدين دينته يسر فضيد وي دينته ويسر يعني ذو يسر دينته إسلامك ومد فضيد صاحبه وما جعل عليكم في الدين من حرج إلهي دينتنا حرج كمية سيادة هذه أعماش الدين إن تكاليف لقوم مقعب علماء غار كذا ديد لأنه وح كل دينته بكم أجرته وح ليس كل بكم أجرته وعنه وح لقوري أبا هريرة أيضا سيدوكله يعني كما سيدي كوي هر لوغا وريو كله يا كان لوغا وري رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين دينته يسر فضيدوي ولا يشاد الدين دينته لما ترتمه او انه كادكادو اسكما ديو احد الروح الا غلبه دينته كادكات يعني هدات تيراد اعماشيو دن ايان دميستريا صلاه دن ميلان دغيا عمره دن ميلان دغيا حجو دن ميلان دغيا صدقو دن ميلان دغيا زكو يعني wax walba meesha uu sariidan ka sameeynaya hadaa tiraadid diintii ayaa ka qaalib noqonayso ma dhamay karaysid way maaragtay marka waa tardaaran fiican marka la ay la yata'ammaqu ahadun ruux kuma xeel dheeraado fil a'maal diini a'maash diiniga ويترك الرفقه فويد كان كما تو الا عجز وانقطع وعاجسيا وانا كغعيا habeenkii oo dhan soo jeedo ma خلاص فيغلب marka diinta marka qaalib noqonaysa فسددوا marka dhaxaysta التوسط في العمل يعني wixii waajibkii iyo linka rabana hoos ka marinina oo maaragtay dib mashaqo oo xadaaf oo inaad amal ka tagtiin keenaya hadhowna hasku kalifina dhexda maaragtay imaada وقاربوا ودواada يعني haddaadnaan akmalkay meesha uu sarreeyay adnaan tagi karin u dhawaada wax u dhow amal u dhow maaragtay sameey wa abshiru bishaaraysta oo maxaad ku bishaaraysanaysiin amalka yar oo aad daamintiin waxa aad awoodiin oo daa'imtiin in ilaahay abaal marin weyn ka siinayana ku bishaaraysta oo maaragtay wixii aad awoodi weydeen oo aadnaan kamili karin ha isku dhibinina bishaaraysta kan yar oo sameeysan inaad wax ku helaysiin واستعينوا كالميستا بالغدوة أرورتي والروحة عرابدي وشيء شيء أو من الدجلة هبينكي قوردي كمدح يعني قفك عابدك هاي أيها وحالة بس وريا أو كلا قف سفر مركز السفر كقفك هو حيالة ديستا أرورته هو أنت قرحه سوق كلان أيوب بحا مركي قرحه قبطان وديا ونستا حدنا مركي inta qoraxdu ay beerto qabow yara soo dhaco kuleel ku jabo ya hadana qaada hadana habeenkii qayb kamid ah ayuu guureeyaa marka sidaas oo kala sameeyo maaragtay acmaasha waqtigaad nashaadka leedihiin salaada subax gadaasheeda oo kale xogaa quraanka iyo diinta iyo ku dadaala waqtigii maaragtay aadaashin joojiye haddana galabtii waqtigaad nashaad ka leedahay haddana habeenkii sidaas oo kale maaragtay sameeye مثلا quraanka oo kale haddii aad 5 salaadood mid walba 10 daqiiqo kaliya siid 50 minutes ay noqonay maalinkii marka waxaad ku akhri kartaa adigoon dareemin ba maaragtay
ويران سدح جوس لبا جوس أكو آخر كرتا لبا جوس بس كده مركو عجيب معنا واستعينوا كالميست بالغدوة أرورتي ورقفك مركا النشاط كليبا هاي مارتي كالميست iyo ruuxati carabadi galabtii maay iyo shay min ad-dujlati habeenka oo ya duljati gelinkiisa hore oo la socdo xawi mar ama habeenkii qayb kamid oo la socdo marka isticaara ku jirta meeshaan waxa way kaalmaysta cibaadaadka daa'imidooda waqtiga nashaadka inaad ku rideen oo xataa maaragtay qofka waqtigu aad iyo aad u taag daran yahay ama uu maaragtay hurda hayso يعني إنه سحده الله إنه كعبادة استكفي عن بل رسولك حديث إنه نص وصعبان في الحوي المارتي لعله إنه دعي استال ريابا ونفتي سبع حباره سوى أغيم بنين تعلن وجيفو ماركت هذا سكون نفتي العبادة دي ماركت فيدعو على نفسه إنه دعي استال ريابا ونو نفتي سبع حباره لأنه من ماركت سيدنا متوسنين ونشاط كيسوبا مركا واغلا خطر مركا عدين تاسو مركا cibaadada daa'imideeda waxa maarata la kaalmaysatiin waqtiga nashaadka oo waqtiga musaafir waqtigiisa u fiican marka qof musaafir oo aakhiro u soo tahay waqtiyada cibaadada nashaadka aad tahay maarata la fiirso marka xadiiskuna waxay kale tusinaysaa adduunyadan xaqiiqada daar meesha laga socdo inay tahay oo nuqla inaad tahay oo nin wareegayo aakhiro u socdo inaad tahay oo qaadaas marka ka faa'iideyso oo nashaadka leedahay maarata باب الصلاة من الإيمان صلاة وحي كميتهاي إيمانك عن براء بن العازب وحال قوريي ومن أنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها أول ما قدم المدينة مركي أقو هريسي ومدينة صوغالي نزل وحو كدقي على أجداده أو يدس رواية قارك وحيلي على أخواله مارت أبتياشيس مركا waxaa laga wadaa rasuulka awowgiis Abdul Muttalib ayaa reer bani Najaar oo ansaar kamid ah hooyadii ahayd oo Salma bint Amr oo min bani Adi ibn Najaar qabiilka ka dhalatay ahayd marka maadaama awowgii ay dhaleen reer awoway u yihiin marka qoladaas ku degay ama abtiyaalay u yihiin oo abihi maadaama أبياشيس مت كمية أبتيال وهايين سياس المعنى رواية قارب أخوالي إليهم مركب أسلميد مركب كان وحو رسولك أول ما قدم المدينة مركب أو سوق علي مدينة أجو الرئيسي نزل وحو كدجي على أجداد أو وديس كدجي ومن الأنصار أنصاره وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وحود كذي قبل بيت المقدس أنك إذا يؤدو كذي 16 شهرا لحية طوان بلوت أو 17 شهرا أما تضريء طوان بلوت مركا رسول صلى الله عليه وسلم سياد أكتهين با مركي هراء وؤدو كاني مكا كسو أدو كاني واد أكتهين ومكا الحرم ككوجهتت دان والبو أتكسو جيستت أيا قبلك وهم أكت دان والبوت كسو جيستid qibli adiga ku tahay marka sida daraadeed laba qofood iska soo horjeedo si qibli u dukanaysa waa xaramka u dhaxdiis laano meesha Kaabada meesha loo jeesanay marka rasuulku marka uu ku dukanayo Maka intuusan Maka tagin wuxuu ahaa inuu dhankaas ka soo jeesto koonfurta oo markaas waqooyi uu Kaabada ka xigto waqooyiga kalena Baytul Maqdis ka sii xigo marka labadooda saas u qaabilayay markuu Maka hore u joogay hada markii Madiina la yimid waa la bedelay maartay Kaabada loo dukanayo waxa loo bedelay Baytul Maqdis labadooduna la iskuma sameey karo midna waqooyi uu ka xigaa midna koonfur uu ka xigaa marka sida daraadeed wuxuu jeclaa rasuulku uu maaragtay inuu qibladii Baytul u dukado marka 16 bilood ama 17 bilood ayuu u dukanay marka 16 bilood culimadu waxay dhahaan waa 16 bilood oo kaamil ah haddii la isku daro labada bilood miduu galay iyo midii maaragtay la bedelayna oo labadii dhinac la isku darana bil kaamil ay noqonayaan oo midna rasuulku rabiicul awwal galay sanadkii dambe shacbaankeedina waa la bedelay
marka rabiicul awwal haafkeed iyo shacbaan haafkeed markii la isku daro bay isku noqonayaan inta kalena waa 16 waay marka haddii aan labada haaf la tirinna waa 16 haddii labada haaf la tiriyo bil la isaga dhigana waxa weeye waa 17 marka saasay ku tahay maaragtay wa kaana yu'jibuhu rasuulku waxa ajab geli jiray wuxuu jeclaa maaragtay u bogi jiray maaragtay ajabka luqadda carabiga laba macno loo isticmaalaa wuu jeclaay iyo maaragtay ajab uu la yaabi jiray way noqotay laakiin hadda waxa laga wadaa wuxuu jeclaaya laga wadaa wuxuu maaragtay rasuulku jeclaay an takuna qibladiisu inay ahaato qibala albayt baytka dhankiisa inay ahaato wa anna rasuulku sallallahu alayhi wasallam salla wuu dukaday awwala salaatin salaada soo sallaha uu dukaday salaat al-ashr casrka salaadiisii ahayd yani salaadii ugu horeeyay oo rasuulku uu dukaday oo qiblada xaggeeda loogu soo celiyay salaatu casri ahayd waa maaragtay qaarkiin inuu idin qoraya laga yaabaa qibala albayt aniga laakiin qori maayo laakiin macnuhu waa saas qibala albayt alxaraam salaadii ugu horeeyay oo markii la wareejiyay oo dukaday casr ay ahayd maaragtay ya idin qoraya saas qibala albayt ha saas ha aniga ima qorin marka isku midaan waa saasa قبلته هتاس وصح لكن مدان دمي وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر هي ساسا مارتي القرآن مركز صلاة دي هريي ودكدي قبل البيت ودكدي صلاة العصر هي مارتي وصلى معه رسولك الجلك سواء قوم قلو فخرج رجل نبا بحي ومن صلى دتك لدكدي كميد معه رسولك الجلك فمر على أهل مسجد أهل كيسو صومري طب مسجد كدو كان يصومري وحالهم أيو راكعون أي ركوع سيهين فقال وحيري أشهد بالله الله وحان أغا مرقاتي أهيو وأن مرقاتي كأهي لقد صليت إن أندكدي مع رسول الله إلى رسول كيسا قبل مكة قبل إن أندكدي يعني داد كانوا داد مساجد كلا كدو كاني أولي حق بيت المقدس كدو كاني oo aan ogeyn isbedelka dhacay ahaayeen markaasuu ninkan dukaday oo rasuulka soo dukadaa u tagay wuxuu yiri waxaan marqaati Allah uga dhiganayaa in aan rasuulka la dukaday qibala makana aan dukanay fadaaru way wareegeen kama hum siday ahaayeen qibala albayt baytka xaqiisa u dukadeen qibala albayt baytka xaqiisa ay u wareegeeno qibladoodu way wareejiyeen marka yaani culimadu way sheegeen qaafkii u wareegeen ma ahan in nin walba meeshii uu joogay uu ka sii jeestay وفرصة because قف والبماشي جوكتا دي كسي جيسته وحدعيس إمامكو إنه قدام بيو مركا إمامكو عوي وريقي مرشكا شقا قشي ماشي ساس بي إماركت إمامكو إنه قدام بيو دعيس إمامكو إنه وريقي مركا عوي إمامكو يرقي سوري وريقين سرقي كلام مركا ساسي مارتي سمية ومعناه وحوي ماشي أسيقا مركا قبلة هذا تاغناي ماها لنكي كلام مساجدك إمامك تجي مركال كاس ومركال جست وكانت يهودنا وحي هاد قد أعجبهم إني عجب جلسي إذ قرتي كان رسولك يصلي إنه دكاني قبل بيت المقدس مركو دكاني وأرنتاس وجع لستين ما يكاد أن يوافقنا إليه waxay dhahan maadaama qibladeenniba hadda waaday macal diinteena inuu ka tanaasulo tiisiyo annagana soo raaco ay u badan tahay dhahan haa marka saasay jeclaysteen wa ahlulkitaab yani ahlulkitaabkana sidoo kale way cajab gelisay wey oo yahuudday ku cadfan tahay waxaa weeye أهل الكتاب كان سيدو كاي waxaa cajab geliyay inuu qibal albayt loo dukado فلما قورتي ولا وجهه رسولك uu jeediyay qibal albayt baytka xaqiisa uu jeediyay ankaru dhalika arinta way inkireen markuu uu jeestay way inkireen marka laakiin waxaad u moodaa xadiiskan iyo baabkan hadeer aayadii munaasabka ahayd asalka lagu sheegay oo saxaabadu markii arintan ay dhacday waxay yiraahdeen rag waxa jira nabi maxamedow
qiblada in markii la soo wareejiyey aan soo gaarin oo salaadiina baytulmaqdis u dukaday raggaa xaalkoodu muxuu noqonayaa marka allah subxaanaه wa tacaala wuxuu soo dejiyey wama kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiinii ma dayacayo marka salaadii baa laga wadaa salaadii aad xagga baytulmaqdis u dukateen lama dayac marka iimaana lagu tilmaamay leannu camalku waa iimaan marka halkaas ayaa salaada halkaasaa salaadu min aliimaan ay tahay lafdigaas qaarkood inay qoreen ay ahaydaan u malaynayaa in aayaddaas lasoo qaato baraakad la geliyo leannahu salaadu inay iimaanka ka mid tahay taasaa caddaynaysa allah subxaana wa tacaala ma dayacayo iimaankiina maarata marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa qoladaana arrin kale oo muhiimaa jirta oo rasuulku baytulmaqdis markuu u jeesanayey waxa uu jeestay waa waxyi min allahi oo aan ahayn qur'aan ma ahayn marka aayadaha nasakheen marka qur'aanaa lagu nasakhay waxyigii nabawiga ahay waxaa lagu nasakhay qur'aan qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha waxaa kaloo meeshaas ka muuqata mucjiza oo rasuulku intaan looba wareejinba maadaama in la wareeji doono allah uu ogaay ayaa la sii sheegay waxay dhihi doonaan sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum saasay dhihi doonaan li oo macnaha mushrikiintuna way ku raaceen yahuudduna war nimankaan meel baa dhinac u jeesanaya maxay yihiin qul lillahi almashriq walmaqrib ilahay baa labada dhinacba iska leh annagu muslimiina nahay hadba dhankii allah subxaana wa tacaala sharcigiisaan aan daba soconnaa waayo marka sidaasaa li marka waxaa laga qaadanayaa khabarulwaaxid qof waaxid oo lagu kalsoon yahay hadalkiisa in lagu dhaqmi karo leannu hal nin ayay maqleen maaragtay ayna ku camal faleen waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadii dhinacna loo dukaday dhanka kalena qiblo lagu dukaday labadii dhinacba markii horena amarkii hore oo aysan ogeyn amarkii hore ayay ku dhaqmayeen oo ah qiblada ha loo dukaday leannu maadaama aysan ogeyn marka dambena amarka dambey ku dhaqmeen oo ah aayad wareejinta dambe la wareejiyey marka baabku waxa weeye wama kana allahu liyudiica iimaanakum ayaa u ah tiir maaragtay baabu xusni islaami lmar'i ruuxa islaamnimadiisa oo hagaagta min aliimaan iimaankay ka mid tahay wy maaragtay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu can abi saciid alkhudriy magaciisa muxuu ahaa بن سنان صح وي ها رضي الله عنه الله كراد النقضي أنه سعيد أبي سعيد الخدري سمع رسول الله إلى الرسول كيس أيوم مغلي يقول سوى رحية إذا قرتي أسلم العبد أدونك أو ماركتي إسلامه أو فحسن أو هياغه إسلام كيسون أو هياغه يعني waxa way i'tiqaadkiisi ikhlaaskiisi iyo maaragtay acmaashiisiba ay hagaagaan yukaffiru Allahu alla wuxuu u dhaafaa canhu isaga xaqiisa kulla sayi'atin xumaan kasta oo kaana uu ahaay zalafaha inuu hormarsaday yani qadamaha wa kasabaha xumaan kasta uu hormarsaday inay kala horeeyaan macquul qaarkood marka la socdo ayaa loo dhaafaa wa kaana wuxuuna ahaanayaa bacda dalika markaa islaama gadaasheeda alqisaas yani xisaab markuu islaamo oo islaamkiisu hagaago wixii ka horreeyey waa loo dhaafaya wixii markaa kabacdi uu sameeyana waa xisaabo hadduu wanaag sameeyana man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha hadduu xumaan sameeyana falaa yujzaa ila mitluha intiisa markaas waa qisaas laakiin wixii ka horreeyey waa sidaas oo kale الحسنة وناجو بعشر أمثالها marka qisaaska lagu fasiraya qisaaska lagu sheegay waxa way alxasanatu xasanadu بعشر أمثالها طبعا لابوي إلى 700 ضعف إلى 700 أولاد إلى أضعاف كثيرة واللي بكسي بدن والسيئات حمانته وسمينا بمثلها يديو كالو أبا المرينيا إلا أن يتجاوز الله إنه كضعف مويانه عنها حقيقة إنه الله كضعف مويانه
marka hadduu ruuxu islaamo oo islaamnimadiisana uu hagaajiyo marka shardigaasa lagu xiray culamadu leeyihi marka ibnu cabdilbari oo kale wuxuu leeyahay qofku islaamiddu waa tooba keen shirkigii hadduu ka tooba keenay kufriga hadduu ka tooba keenay zinadii khamrigii wixaas oo dhan hadduu uu dhammaantood ka tooba keeno dhammaantood waa laga dhaafaya sidaasayna jumhuurtu u badan yihiin laakiin ibnu cabdilbari wuxuu leeyahay waxay ku xiran tahay faxasunu islaamu qofka hadduu islaamo oo wax uu markuu gaalka ahay uu samay jiray weli uu wato hadda kaa inuusan ka toobateenina caddaynaysa u leeyahy oo khamradii weli cabayo oo zinadii weli wado oo maaragtay oo ribadii ku tacaamulayo wixiisii wato marka faxasuna islaamuhu maha kii uu ka tooba keeno shirkiga ah ayaa laga dhaafaa laakiin kaas faxasuna islaamuhu waa shardi uu leeyahy jamhuurtu waxay soo deliishadeen aayadaha allah subxaanaه wa tacaala uu leeyahay in tajtanibuu kabaa'ira ma tunhawna canhu nukafir cankum siyaatikum wanadkulkum madkhalan karim marka haddaad marka wuxuu leeyahay waxa weeye qofkaanu aayadda ruuxadeedu waxay leedahay inuu ka fogaaday sheegaysa waxyaabahaas o dhan marka wuxuu leeyahay hadduu wixii uusan ka tooba keenin ma gelayso waana hadalkiisa waa sadiida u muuqdaa maaragtay marka qofku bal iska dhaafe haddii uu xumaan uu maaragtay wanaaggii uu sameeyena waa loo qoraya markaas yani ilahay raxmadiisa qofka gaala wanaaggu iyo khayraadka uu samey jiray waa loo qoraya oo cabdullahi ibnu xizaama rasuulka xakiim ibnu xizaam cafwan ayaa rasuulka weydiiyey markaasu wuxuu ku yidhi kuntu ataxanas acmaal khayrahoo aan ku cibaadaysan jiraa jirtay markii hore laanno dadkaan carabta ahi waxbay ka haysteen diinta de nabi ibraahim diintiisiiba aahaarteedii ay wax ka haystaan ku dhaqmi jireen marka dadka in wax la siiyo masaakiinta loo naxariisto waxyaabahaas o dhan runta la sheego waxaasoo dhan waxay kamid ahaayeen waxyaabihii markaasuu yidhi maaragtay aslamta calaa ma aslaft yani wixii aad hormarsatay waad la soo islaamtay oo khayra marka waa lagu qorayaa wakadalika sidoo kale cabdullaahi ibnu muxuu ahaay judcaan nin min mashaahiir kurama carab u ahay nin caan ahoo macnaha deeqsiyo ahay weyn markaasaa ninkaas saasuu samay jiray rasuulku ka waran marka rasuulku wuxuu yidhi gaalnimo ku dhintay maalin ba ilaahu dembigayga dhaaf ma usan dhihin marka maadaama shirkiba uu ku jiray wixii dhammaay halkaasi wixii iskula baaba'een marka kaasna waa sidaas yukafir illahu canhu allah wuxuu maaragtay u dhaafaa kula sayi'atin xumaan kasta oo kaana u ahay zalafahaa maaragtay mid maaragtay hormarsaday aayadda qur-aanka aana sheegaysa ilaa man taaba w aamana w camila camalan saalixa fa ulaa'ika yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaat marka taasaaba cajiibaba qofka hadduu tooso wa kaana bacda dalika intaa dabadeedna waxaa ahaanaya alqisaas yani waxa weye in la isxisaabiyo wixii islaamka ka horreeyey waa lagaa dhaafay wanaagaad samaysana waa lagu siiyey laakiin markaa islaaftay kabacdi xisaab waa laisu qisaasaya waxaad samaysana waa lagaa goyaa waxaad samaydana waa lagu qisaasa oo waa lagu siinaa alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa 700 dicfin xasanadu waa 10 laab ilaa 700 laab wasayi'atu bimilihaa sayi'aduna waa mithilkeedoo kale marka waxaa jira meeshaan nuqto yaraa ku jirta inaad fahamtiin muhiim wey yacni mar walba xasanadu waa 2 laab sayi'ada ayada lama 2 laabo laakiin waa kala weynta arrintaa fahma waa kala weynta amaakinta iyo qaabka loo sameeyey ku kala weynta matalan zinadu iyadoo ah maaragtay dembi weyn ayaa hadda qofku xaliila jaaratihi dariskiisa xaaskiisa hadduu la galo waa la 2 laabay la dhihi maayo laannu asayi'atu bimithliha wey laakiin waa ay ka weyn tahay midii kale waa ay ka weyn tahay dembiga lagu galo meel walba waa dembi oo bimithlihi weeye laakiin haddaad xaramka ku gashid dembigaas waa uu ka weyn yahay marka weligaa ha dhihin dembiga waa la 2 laabaya ha dhihin laakiin waxaad tidhahdaa dembigaas dembiga waa ka weyn yahay soo maahan waa ka weynaan karaana
marka nusuus saas sheegaysaa dembiga waa ka weyn marka sidaas waa illa marka waa muhiim مثلا ramadaanka oo kale acmaal xun hadaad samaysid ha dembiga wala laba laabiya wadaadaha ay arkaysa dembiga waa ka weyn yahay ha ashul xurum illa an yatajawaz Allah alla inuu maaragtay ka dhaafo mooyaan canha xaqida باب أحب الدين دينته مثل لو جعل بدنيا أعماش على جو ذا إلى الله الله حق أدومه مثل لو جوكتين بدنيا هاي ويمارت مثل لو جوكتين بدنيا هاي ويا لو بق ما أخرني وكدرنا وحير قدام الكتاب كماركتي وياي أنا عائشة رضي الله عنها الله كرد نقضه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحوصه قال عائشة وعندها يدو أكتد إيتها امرأة قبر فقال رسولك وحكيري من هذه قبر أنا واتمه قال المركة وحيتي عائشة فلانة وهبلة حولاء بنت نويت ميا لير هذا سياسة وكلا حولاء بنت نويت كتبتك في سياسة مقعد ليها قبر عاس أي إحد تذكر مركة وحي كشة كينيسا من صلاتها صلاة دين وما حيليلها لا تنام الليل habeen gabadh aanu indhaba isku qabato habeenkii dhan way soo jeedaa qaal rasuulku wuxuu yiri mah ka joog yaani Aisha wuxuu ku leeyahay gabadha amaanteeda jooj marka laba arrimood uu rasuulku u sameeyay leeyihiin midaana raajixsan mid waxa weeye qofka inaan dadka hortiisa lagu amaanin amaanta moogta xogaa leeyahay ka joog lambar labana waxa weeye waxa aad gabadhan ku amaanayso wax la isku amaano ma aha cibaado la isku amaano ma aha hadan ku yiraahdo ninkan waa boqorsoon amaanba ma ahanba waa boqol maalmood oo isku xigto oo la kala goynin iyo maaragtay habeenkii oo dhan ay soo jeedaa ayaduna amaan ma ahan oo waxa weeye rasuulka mar wuu seexan jiray mar waa soo kici jiray mar waa soomi jiray mar waa afuri jiray taasa amaana ciyaada la daa'imi karo ayaana maaragtay taasaan amaana way maaragtay ma ka reebto marka laakiin inay gabadhu baxday riwaayooyinka qaar sheegay oo aysan horteeda oo aysan markaa aysan joogin marka waxa weeye ka joog oo arinta wax la isku amaano maahane ka joog maxaa yeelay waxaana fasiraya xadiidka calaykum macnaha laazima oo joogteeya bima tudiiquna waxaad karaysiin sameeya fa wallahi baan ku dhaartay لا يمل الله الله كما داليو حتى تملوا إلى أذنكم داشين يعني وحوي الله أجرك ولي وأذن سينيا أو الله إنه إذن أبال مرينيو ما ركتي كدالي مايو إلى أذنكم أتكداشين وما ركتي ومعناه وحوي واحد جوكتي كرتين أو أبال مرينتين جوكتي إذن نقطة سمية واحد إنان جوكتين كرين وأبالمرينتين أي سجوكتي إذن نقونين جوجي ويمار ساسو كله إلهي مر والبابا مارتي وإذن أبالمرين يا ويمارتي زيادة الإيمان والنقصان إيمانك إنه كرده وكان وحو هاي أحب الدين أعماش مد لو جعل بنيه إليه إلى الله الله ما كيوي الذي كيوي داوم أو جوكتي عليه دوشيسة صاحبه وفق صاحب كيسة هيت أنا لازم من باب زيادة الإيمان إيمانك أو كرده ونصانه أو إسلامه ماركتي أنا أنس وحلقه رضي الله عنه ولا كرضنا عن النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم قال حويري يخرج من النار نار وحكسه بحيا من قال لا إله إلا الله عدي تري لا إله إلا الله والحال في قلبي سوي هي وزن شعيرة هيت مارتي عبر كذا أو كلا أما مارتي عليس كذا أو كلا من خير وناجح ويخرج وحكسه بحيا من النار نارته من روحي قال يري لا إله إلا الله قفيري وفي قلبه سنوي هي وزن برة وزن كذا برة وقمحها وسرينته marka bur daqiiqa laga wada burrada waxa laga wada xabadaasa burrada la yiraahdo
marka waa qamx shaciiraday xoogaa yar ka yar tahay shaciiraduna waa isla sareynta midda waaweyn oo maaragtay cadcad waaye oo maaragtay Ethiopia aad uga baxdaa shaciiradu waa midaas tan yaryare ka gaagaabanna burraa la yidhaahdaa marka shaciiradu wax yaray ka weyn tahay burrada wax yar ka yar ogow marka inuu kala weyn yihiin kala yar yihiina laga qaadanaya marka ninkii shaciiro iimaan haysta iyo ninkii burro iimaan haysta iimaankoodu waa kala weyn yihiin marka halkaas ziyaado iyo nusqaanta laga qaadanaya oo min khayrin wanaaga wayakhruju min annaari naarta waxaa ka soo baxaya man qaala ruuxii yihahda laa ilaha ila allah wa fii qalbihi qalbigiisana uu yahay wasnu daratin yani wax ishu qaba karto yar wax qidca yar maaragta daradu marka waa aqalu ashyaa almawzuna wax la cabiro waxa oo yar waay daradu waa wax irbada afkeedoo kale ah lamid ah aad u yar wey maaragta culamada qaarkood namlay ku fasiraan namlana kasii yar wey maaragta okay oo min khayrin wanaag marka maadaama shaciiro iyo burro iyo dara ay kala wen yihiin dadkii kala haysta mid walba iimaankooda inuu kala wen yahay wa uuna kala yar yahay marka sidaasaa inuu iimaanku kordho nusqaamana loogu keenay cumar ibn khadaab waxaa laga wariyay radiallahu canhu laga radona ana rajula nin oo min alyahuudi yahuud ah waxaad u moodaa in la leeyahy wadaadku mau joojiyo laakiin baabkaanan ku daraya laytahu maaragtay sakad laanna waxaan ogahay in kitaabku naga dhamaadaan raba anugu can cumar ibn khadaab waxaa laga wariyay radiallahu canhu alla ka radona ana rajula nin oo min alyahuudi yahuudda kamid ah ayaa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa amir almu'miniina mu'miniinta amiirkeedaay yani nugtaa meeshaan laga faaidaysanaya oo kutubta wax badanna aad ku arkaysid qofka markii wax laga warinaayo qaabkii wax looga wariyaa loo sheegaa markii la arko hadda maalan markaan ibnu naaduur kala hadlayni ibnu naaduur wuxuu ahay nin usqufakada kabacdi waa soo islaamay soo maahan laakiin qaabkii markii hore oo wax laga warinaayo uu ahayaa la sheegaya moogta si wixii qaabka u ahay loo soo guriyo sida ninkaana rajulan min alyahuudi waa nin yahuudda kamid a laakiin dabadeed waa islaamay kacab alaxbaar ayaa la dhihi jiray kacab alaxbaar waa islaamay waqti cumar uu islaamay maaragtay marka laakiin waana nin yahuudda kamid ah oo maaragtay islaamkiisuna sidqi noqday markii dambe marka laakiin markuu cumar weydiinayo arrintan waa rajulan min alyahuud sidaas oo kale ana rajulan nin oo min alyahuudi yahuudda kamid ah qaala lahu kacab alaxbaara la yihahdaa qaala lahu marka cumar wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkeediyow aayatun aayad oo fii kitaabikum kitaabkiina ku jirta taqra'uunahaa aad akrinaysiin low calaynaa annaga dusheenna macshara alyahuudi yahuudda kulankeedaan ujeedaaye yani macshara yani macsharadan waxay kordhanta akhusu waxaan gooni u sheegayaa weeye macshar alyahuudi amase acni macshar alyahuudi aan ujeedaaye annaga calaynaadii u fasiraya annaga dusheenna oo yahuud ah naزlad haddii kusoo degi lahayd latakhadnaa waxaan ka yeelan lahayn dalika alyawma maalinkaas ciidan ciid baan ka yeelan lahayn qaala marka cumar wuxuu yidhi ayu aayatin hiya waa aayadee aayadda aad leedahay haddii ay annaga nagu soo diri lahayd maalinkay soo degtay ciid baan ka yeelan lahayn qaala wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum اlslaama diina alyawma maanta ayaan akmaltu lakum idiin dhammaystiray diinakum diintiini wa atmamtu calaykum aan idin buuxiyey calaykum dushay nicmatii barwaaqadayda oo islaamnimadii waradiitu aan inkaga raadi noqday lakum adiga alislaam islaamka diinan diin ahaanna aan inkaga raadi noqday diin ahaanna waan inkaga raadi noqday qaala cumar wuxuu yidhi qad carafnaa dalika alyawma maalinkaas waan garanaynaa u yidhi waalmakaana aladii nazalat fiihi meeshii ay kusoo degtana waan garanayaa naزlat fiih cala nabiy meeshay rasuulka kula soo degtana waan garanaya yani way soo degtay wa huwa qaa'imun bicarafa isagoo carafa taagan ay soo degtay yowma aljumca jumcada
maalinkeedii marka ciidna waa tahay jumcadu waa ciidul asbuuc somaan haddana waa ciid labaadoo dadka xujayda ah waxaa ciid u ah maalinka caraf marka ciiday noo tahay sanadkeediina waa la yaqaanaaho waa sanadkii rasuulku sala allahu alay wasalam intuusan dhiman wax yar maaragtay ka hor ah oo waa sanadkii 11 ayuu maaragtay ay sanadkaas ahayd marka meeshiina waan garanaya makaankiina waan garanayaa maalintiina waan garanayaa marka wuxuu yidhi sanadkiina waa la garanayaa waxaasoo dhan marka waa noo kooban tahay yidhi maaragtay marka aayaddan maxaa loogu soo daliishaday ziyaadat liimaan wanusqaani waxaa la yidhi waa dhammaystirnay baa la yidhi mathalan markii ugu horreeyey tawxiidka uu soo degay islaamku ma dhammaystirnayn soo ma salaadiyaa ku darsantay islaamkii waa kordhay zakadiyaa ku darsantay waa kordhay xajkii baa ku darsamay waa kordhay soomkii baa ku darsamay waa kordhay jihaadkii baa ku darsamay waa kordhay acmaashii khayrigahay marka taasa waxay tusinaysaa iimaanku inuu kordho sidaa daraaddeed maaragtay ibnu cabdilbar kitaab yaroo aad u fiican uu leeyahay oo uu maaragtay uga hadlo maaragtay cilmigii salafka iyo camalka inuu cilmigu inuu keenayo camalka sidaas oo kale marka alyawma akmaltu lakum diinakum ayaa waxay keenaysaa diintu waa iimaanka iyo islaamnimada iyo acmaasha khayriga soo maahan waa la dhamaystiray marka sidaas oo kale keenaysaa inay kordhaan sidaas oo kale marka maalinkiina waa la garanaya sidaas oo kale maaragtay ayadda ka horreyda marka waxay keenaysaa in islaamku markuu dhammaystirmay ya-isa aladiina kafaruu macnaha way ka quusteen in maaragtay dadku ay jaziirat alcarab inay kufri kusoo celiyaanoo islaamka ku xoogeystay marka waana dhammaystirantay dacwadiina waa u dhammaystirantay islaamnimadiina waa dhammaystirantay sidaas oo kale marka rasuulkuna waa aayadihii ugu dambeeyana oo soo degay marka waxaa la yidhahdaa aayad marka culimmada dhehaysaa aayaddii qur-aanka u dambeysay oo soo degtay waaye waxay ka wadaan aayad xukun dheeraada soo kordhinaysa aayaddan ka bacdi sooma degin rasuulkuna dabadeed wuxuu noolaa 80 wax yar marka aayada ka dambeysay laakiin oo qur-aanka midda ugu dambeyday ah waa aayadda suurata aayadda dayn ka horeyda aayaddan dheer wattaquu yawman turjacuuna fihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin aayaddaasa maarata u dambeysay maarata baabu zakaa zakadu inay kamid tahay min alislaam islaamka inay kamid tahay oo diin islaamna waxaan sheegnay in islaam iyo iimaan ay bukhaari isugu mid tahay laba saac justaa inaan wadaan rabaa marka markatigaan soo gala waqtigiisaan ku ekayna waa dhowdahay الزكاة من الإيمان عن أبي طلحة وحلقه عن طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله وأن المعروف هو مارة مبشرين بالجنة ابن عم أبو بكر ورير تيم ماركت والله رير تيم أيو مارت كده شو أبو بكر المعذير حيان مركا واسداس مركا 10 المبشرين توادت سدا سوغلو علي بن أبي طالب الرسول كين أديركيس محوها عمر واد قرنيسين ومبشرين تأسون وكمدي هاي وانا رير عبدي وقريش أبو بكر الصديق رير تيم وهي ضلحها مارت أي قرابيهن سعد بن وقاص ورسول كأبتيجيس وهو يديس يقرب لها عثمان ورسول كالمعذر دواي رير عبد الشمسي سجى صنعان ورير عبد الشمس أمي وير وحديثه رسولك كما فوق معركتي وهكذا زبير بن العوام سين وقرني سينو رسولك إدريس أيا هذا شيء معركتي صفية هذا شيء مركب وهكذا وعدد تعاس وأنا ما أنتم قريشي أحيان عن طلحة بن عبيد الله وحلو رضي الله عنه على كرام الله يقول إن إليه جاء رجل نبا يمد ومن أهل نجد أهل نجد إلى رسول الله إلى رسول سوء يمد ثائر السعي رأسي مدحي سحال ويهي مدحي ستاكتاغيه تيميس الشان لا يسنينو سلاسيهين نسمع أن مغلي إنه دوية صوته أو عدكي سقوقوديس أن مغلين يعني هو عدك قيلال أهو
aad maqlaysid laakiin aadan macnihiisa fahmin wey walaa nafqahu ma yaquul waxa uu leeyahana aanan fahmaynin laakiin qowlkiisa qowdiisa aan maqlayno way maaragtay xataa danaa ilaa uu ka soo dhawaaday markii hore inuu qaylinayo waan maqlaynin marka waxay muujinaysaa maaragtay wax xogaa nin iska reer baadiye ahoo aan maaragtay asluubkii rasuulka la hadlidiisii sidaas aan maaragtay la tajcalu ducaa ar-rasuuli baynakum ka ducaa ba'dikum ba'dan sidaas oo kale la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti an-nabi marka xogaa munaasabad sida daraaddeed saxaabadu way jeclaayeen nin cusub oo waxba ka xishoonayn oo su'aalaha maaragtay si fiican maaragtay u weydiiyo ilaan maadaama asluubka ay u ilaalinayaan marka sidaas oo kale xataa dana ilaa uu ka soo dhawaaday marka magacyo badana lagu sheegaa lacalana inaan mar kale sheegnaba fa idaa huwa waaba isagoo yas'alu can alislam islaamnimada wax ka weydiinaya faqaala rasuulullah ilahi rasuulkiisu wuxuu yidhi islaamnimada aad doonaysid waxaa weeye 5 salawaatin fi lleyli fi lyowmi walleyla 5 salawaatin 5 salaadood oo fi lyowmi maalintii iyo walleylati habeenkii la tukado faqaala wuxuu yidhi hal calaya gayruhaa shantaas wax aan ahayn laguma laha miya qaala wuxuu yidhi ilaa an tatawaca in aad sunno falanaysid mooyaane wax waajib kugu ah oo aan intaa ahayn ma lahan marka xanafiyadu meeshaan waxay yidhahdaan witrkaa waajib oo wax kale waajib kuguma ahan tadawucaas salaada oo witrigaa maahane sidaas yidhahdeen marka iyo adilo kale ay soo qaateen alwitru waajib xadiis dhahay yani waajibkana markii la arko waxaa loo isticmaalaa wax thaabit ah wey waa wax thaabit oo sugan oo in qofku ay dukato ay tahay oo sunna mu'akada ah wey maarag laakiin waxa weeye ma ahan wax waajib oo farada ma ahan wadakara lahu rasuulullahi ilahi rasuulkiisu wuxuu u sheegay azakaata zakadii ayuu u sheegay zakadii oo xoolaha kugu waajibay la baxshay qaala wuxuu yidhi hal calaya aniga korkeyda ma tahay gayruhaa zakadaas waajibka waxaan ahayn qaala wuxuu yidhi rasuulku la maya siyaamka imaan ka bud haa qaala rasuulullahi ilahi rasuulkiisu wuxuu yidhi wa siyaamu ramadaan soomkiisa yani islaamnimadu waxaa weeye 5 salawaatin fi lyawmi waleyl iyo wa siyaamu ramadaan qaala marka wuxuu yidhi hal calaya gayruhu soomkaas waajibka midaan ahayn ma lagu leeyahy qaala wuxuu yidhi laa maya ilaa an tadawaca inaad sunno falanaysidoo khayr badsi aad raadsanaysid mahane mid waajiba lagu leeyahay ma jir wey maa qaala wuxuu yidhi wadakara lahu rasuulullahi ilahi rasuulkiisa wuxuu sheegay azakaata zakadiina wuu u sheegay oo islaamnimadaas dooraysid salaada iyo soomka iyo zakadaa kamid yidhi qaala wuxuu yidhi hal calaya gayruhaa intaa waxaan ahayn oo zakadaa waxaan ahayn ma laygu leeyahy qaala wuxuu yidhi laa maya ilaa an tadawaca inaad sunno falanaysidoo khayr siyaadsanaysidoo sadaqo dheeraada la bixaysid mahana qaala wuxuu yidhi faadbara rajulu ninkii wuu jeestay wahuwa yaquulu isagoo dhahaya wallahi baan ku dhaartay laa aziidu calaa haada kan ka kordhi maayo walaa anqusu kana dhimi maayo qaala rasuulullah ilahi rasuulkiisa wuxuu yidhi aflaxa ninkaasi maaragtay wuu liibaanay in sadaqa hadduu run sheego wuu liibaanay hadda qofku faraa'ilta waa ra'sulmaalkii hadduu qofku la yimaado waa wixii lagu liibaanayay wey maaragtay ayagana markuu wax ku darayay inuu ayaga sugo weeye maaragtay marka soomkana horaa loo soo sheegay salaadana horaa loo soo sheegay inay iimaanka kamid yihiin laakiin haddeer baabkan wuxuu u keensaday in zakadu ay kamid tahay iimaanka iyo islaamnimada xajkuna waa kamid yahay xajkuna waa uu kamid yahay oo isaguna wax kasta oo camal khayriya ayaa iimaanka ka mid ah maaragtay wax kasta oo camal khayri ah ayaa iimaanka maaragtay ka mid ah marka wiilka dambe waxaan rabnaa kitaabul cilmi aan dhexdiisa ugu joojino marka kana aan ku daro baabu itibaaci aljanaa-is janaazadii la raaco min aliimaani iimaankay ka mid tahay janaazadii la raaco iimaankay ka mid tahay can abi hurayrata waxaa laga radi allahu canhu alla ka radnaa ana rasuula allah ilahi rasul sal ly slam qaala inuu yidhi man itabaca qofkii raaca janaasata muslimin qof muslima janaazadiis
iimaanan isagoo rumaysan inay tahay camal ilaahay loogu dhowaado واحتسابا أجر حساب سنة يو الله سبحانه وتعالى إنه أبال مرين هو درادي أسمينية مارتي قراباتهين إيو نين هبل مارتي يسكاحو مان نين هداد هو يديس مارتي دوكتي الراعي ويدا إيو وحيابها اسمارت وحيابك أسوء عيرينين مارتي قف كان دمتي حق المسلم على المسلم وحكم ده قف كدنتا إن مارتي للراعي جنازة ديس لو سو دعي لو سو دكذا حق إسلامك أسوء إلى لنا إلهي درتي سأسمية وهي مركع وكان معه لنا جراون كتجين حتى يصلى عليها إلى اللي قد كذا ويفرغ مارت وكذا ما يستره من دفنها دوجدي مركع والله إن سراد دي اللي قد كذا هدنا للدوج الله بدي بلا قيب قاته فإنه يسوي يرجع حول الله بنيا من الأجر أجر كحق هذا بقيراطين لبا أجر ووين أيو كلا لعبنايا كل قيراط قيرات كسته مثل أحد بورت أحد وكلايته أجر والباء بورت أحد وكلايته معناه هو الصلاة دي أولده كذا نوا هل قيرات دوجدي أو كلا قيب قلنا وهل قيرات وكلا ومن صلى قفك الدكذا عليها دشة ثم رجع صلاة قبل أن تدفن أنت على الدوجن فإنه إسقو يرجع حلص الله مريا بقيراط هل قيراط أي الله صلى الله مريا مركب قيراط ك لو قد هري وحال وده جري وحير يرى ما ركتي أياله استعمال لكن هذا وحال جدا حديثك جبل أحد أبا المرين وين مركب إن لدكتنا وقيب إن ما ركتي وحكيت دكتنا وقيب كلام مركب الله بديه مركا عبد الله بن عمر مالت أبو هريرة أي حديث كان أشياء مركاس يجري والله لقد فرضنا في قراريط فربنا أنكو أن موقتي أنكو حد قدبنيوي يعني مركا أنت لدو كذا صلاة وشكلها بجري مركا وحيري خلاص هذا هو كده بيوان سياس وكذا أبي بكر سمحان يا نفيع نفيع بن حارث هل كاسا مركو جوجينينا إن شاء الله تعالى